Assalaamu calaykum developers kusoo dhawaada Afan Academy muuqaalkan maanta waxaan ku qaadan doonaa project real life ah anagoo dhisayno registration iyo login form muuqaalkan ma ahan mid basic ah kaliya waxaa qaadan karo qof walba ay wax ugu bilaaban yihiin luqadaha kale ah HTML CSS JavaScript iyo waliba PHP muuqaalkeeni maanta wuxuu ka koobnaan doonaa 3 jabtarka koowaad ee muuqaalka waxaa ku baran doontaa sida ula soo degi lahayd code editor iyo sida ula soo degi lahayd local server also jabtarka labaad ee muuqaalka waxaa ku qaadan doontaa sida markaa u sameyn lahayd user interface-ka project-ga aan dhisayno jabtarka saddexaad ama jabtarka ugu dambeeya ee muuqaalka waxaa ku qaadan doontaa sida markaa waxyaalihii aad u dhistay ugu xiri lahayd database iyo sida xogtii uu markaa userka soo geliyo loo geyn lahaa database-ka ay sida loo soo akhrisan lahaa anigoo adeegsanayno luqadda PHP iyo markaa MySQL kusoo dhawow mawduucayni maanta. Assalaamu calaykum asxaabta hadeertan waxaan gudagalaynaa jabtarkeeni koowaad waxaan la soo degi doonaa code editor-keena iyo sidoo kale local server-keena waxaan adeegsan doonaa code editor lagu magacaabo Visual Studio Code sidoo kale waxaan adeegsanaynaa server ama local server lagu magacaabo exam ugu horeyn aan soo furo markaa Chrome browser-keyga adiga soo furo browser-kaaga hadhooti Chrome browser-keyga waxa ku searching garan doonaa Visual Studio Code or VS Code waxaan taabanaya halkan download ee ku qoran tahay wuxuu keeni doonaa page-kan sida arkaysid waa cross operation wuxuu ku shaqeynaa Windows Linux iyo markaa Mac marka adeerta maadaama Windows aan adeegsanayo waxaan soo degsanayaa Windows adiga dhow operating system-ka adeegsanaysa soo degso waxaan taabanayaa halkan ku qoran tahay Windows wuxuu leeyahay download not starting linkigaana taabanaa yes for now sida arkaysid downloading-kii ayuu inoo bilaabay also waxaa soo degsanaa exam waxaa soo furaya new tab then waxaa leeyahay exam asna sidaan uu kusoo bixi doonaa waxaa taabanayaa halkaa ku qoran tahay download also asna markaaba cross operation wuxuu ku shaqeyn doonaa Mac sidoo kale Linux iyo Windows marka adeertan waxaa soo degsanaynaa Windows qaasatan waxaa soo degsanaynaa PHP 8.0 gan waxaa leeyahay download for now asna waxaa taaban doonaa halkaa ku qoran tahay click here then waxaa taabanaya halkaa ku qoran tahay download last version also sida arkaysan waa inoo bilaabay downloading-kii waqti ayuu qaadanaya isku soo noqonaynaa markay downloading uu iga dhamaado. Assalaamu calaykum developers hadeertan downloading-kii waa inoo dhamaaday sida arkaysid examina waa kana waa inoo soo degay also Visual Studio Code-keena waa kana waa inoo soo degay hadeertan exam installation-kiisa ma sameynayno sababtoo tahay exam waxa u baahan doonaa jabtarka saddexaad hadeertan waxa u baahannahay kaliya Visual Studio Code marka Visual Studio Code-ka markuu ku soo dego sidaan ku yahay installation saa u sameeyno waxa dhahaynaa click daaqadana ku soo bixi doono then waxaa leedahay I accept next dheh then hadaa u baahantahay in desktop-ka lagugu sameeyo icon halkan tick saar hadaadan u baahnayna halkan tick ka qaad adeeg ugu xirantaa aan hadeertan uma baahni waxaa leeyahay next then waxaa taabanaya halkaa ku qoran tahay install installation-kii sidaas kugu bilaabaya markuu installation-kii ii dhameeyo isku soo noqonayna hadeertan sida arkaysid Visual Studio Code-kii installation-kii waa inoo dhameeyay waxaa dhahaynaa finish hadeertan Visual Studio Code-keeni waa haysanaa jabtarkii koowaadna intaanu nagu eg yahay waxaa gudagalaynaa jabtarkeeni labaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan asxaabta isku soo noqod wanaagsan sida wad ognahay waxaan hore usoo qaadanay jabtarkeeni koowaad anagoo jabtarkeeni koowaad kusoo baranay markaa sida ula soo degi lahayn Visual Studio Code iyo exam hadeertan sida ogeyn waxaa soo sameynay Visual Studio Code installation-kiisa marka waxaa gudagalaynaa jabtarkeeni labaad sida hore soo sheegaynay jabtarkan waxaa ku baran doonaa marka sida u sameyn lahayn user interface-keena ama front end-ga project-ga aan dhisayno front end-geena dhisaynaa number 1 waxaa soo sameysan doonaa folder kaasoo aan ku shuban doono dhammaan datooyinka aan sameynay waxaan create gareynaynaa hadeertan folderkan waxaa u baxsan doonaa markaa reg oo kasoo gaabiyey registration iyo log oo markaa kasoo gaabiyey login folderka markaa sameeyo folderkaas oo furi doonaa hadda isticmaalaysid Windows 11 right click dheh then waxaa sameyn kartaa inaad aadid open with code
waxay la tahay in uusan lahayn Windows 10ka hadaa Windows 10 isticmaalaysid waxaa sameyn kartaa inaad dhahdid open in terminal markaad dhahdid open in terminal inaad qortid code kadib aad taawatid space kadibna aad taawatid dot for now enter dheh wuxuu si automatic kugu soo furi doonaa Visual Studio Code-kaaga wuxuuna kugu soo furi doonaa folderkii hadeertaan aan sameynay sida arkaysa halkan markaa waa magacii folderka aan soo sameynay marka hadeertaan Visual Studio Code-ka qaabkan uu eg yahay waxa ugu muhiimsan kaliya laba button buttonkan koowaad iyo buttonkan labaad labadaas ugu muhiimsan oo badanaa aan isticmaali doonaa buttonkan koowaad waxaa lagu magacaabaa new file halka buttonkan labaad lagu magacaabo new folder new file waa sida caadada ah wuxuu ku sameyn doonaa document cusub ama file cusub halka new folderna uu ku sameyn doono folder cusub so number 1 waxaan sameysanaynaa new file waxaanu baxsanaynaa index.html also waxaan create gareynaynaa folder aan ku qori doono css folderka waxaa ku shuban doonaa dhammaan daatada css ama codeka css aan qori doono folderka aan click siinaynaa folderka marka click siino folderka inaa ku dhex jirto ama gudihiisa lagu diyaari doono wax ku fahmay falaartan uu hoos ku aadan yahay micnaheedu waxa waaye deertan waxa ku dhex jirta folderka agadu falaarka qaabkan ku yahay folderka ma ku furno marka folderka click siinaynaa kadib waxaa sameynaynaa new file sida arkaysa filekan waxaa lagu dhex sameyn doonaa folderkan css ka dhexdiisa so waxaan leenahay app.css also folderkan waa iska xiraynaa hadeertaan waxaa sameynaynaa folder kale oo markaa lagu magacaabo js kaasoo aan ku diyaarsan doono daatooyinka js-ka hadeertaan sida arkaysid shay walba aan sameeyo waxa ii raacaya icon adiga waxaa laga yaabaa inuu iconiskan kuu raacinin so iconiskan haddaa u baahan tahay waxaa jira wax lagu magacaabo extensionis uu leeyahay Visual Studio Code meeshaana aadi doonta ama iconkan oo extensioniska ah iconkan markaa aadid sida arkaysid wuxuu leeyahay box surgeon ah kadib boxkana waxaa ku qori doontaa material icon material icon yes sida arkaysid wakana uu soo baxay waa extensionkan ugu horeeyo kana click ku siin doontaa kadib meeshaan ku keenaa so adiga aduu install dhaho hadeertaan oo isoo degsanaya marka install dhaadi kadib automatic ku shaqeyn doono ku laabto fileskeena so hadeertaan marka waxaa sameynay folder js ah kadib waxaa sameynaynaa in new file folderkan ku dhex sameyno new filekaasna waxaa baxsanaynaa app.js for now filesheena oo idil waa diyaarsanay waxaa diyaarsanay html-kii also css-ki iyo javascript-ki for now javascript ma qori doono save also css-na ma qori doono kaliya waxaa qori doonaa marka html-ka number 1 waxaa sameyn doonaa waxaa isla qaban doonaa shift iyo xarafka number 1 then waxaa sameyn doonaa meeshaan document ay ku qoran tahay waxaa ka dhigi doonaa title-keena waxaa ka dhigan doonaa registration and login system okay for now bodyga imaan doona waxaa dhigi doonaa asina .container then containerkan dhexdiisa waxaa geli doonaa form oo markaa ah post also formkan actionka ka tiri doonaa oo actionka waxaa dibak isticmaalayna marka php ga qoreeno ama chapterka saddexaad so waxaa leeyahay meeshan for now waxaa igu sameysaa header class marka header div classkiisa uu yahay header gudihiisa waxaa ii gelisaa h1 then waxaa igu qortaa registration form kadib waxaa ii sameysaa headerka banaankiisa labelkan for hadeertaan inaa ka tirtiro waaye attribute-kaas uma baahni so labelka gudihiisa waxaa ka dhigi doonaa username also waxaa sameyn doonaa input oo markaa text ah inputkan iyo labelkan waa highlight gareyna kadib waxaa isla qabanaa alt shift arrow down si mar kale au koobiyey also mar kale highlight gareyna alt shift arrow down so meeshaan labaad waxaa ku qori doonaa email typekiisa waxaa ka dhigi doonaa isla email also kan waxaa ka dhigi doonaa user password asna markaa typeka waxaa ka dhigi doonaa password so hadeertaan waxaa sameynaynaa marka inaa marka confine passwordki aad diyaarino confine passwordki aad diyaarinayna halkan waxaa leeyahay confine n waa meeshaan confine password also inta sidiisa ku dhaafi doonaa ama okay waa sidiisa ku dhaafi doonaa oo ileen waa sharci so waxaa sameynaa marka ina meeshaan imaado then aa dhaho input
laba dhibcood buttonkii diyaarina marka oo daatada markii qofka formka uu buuxiyo buttonkii send uu ka dhigi lahaa waxaa leeyahay input laba dhibcood micnaheedu waxaa input typekiisa uu yahay button sida arkiisa marka meeshan value-ga noo weydiina ama qoraalkii buttonka lagu qori lahaa so waxaa leenahay waxaa leenahay meeshan register now okay register now so waxaa sameynaynaa marka inta register number inta e waaye intana waaye inta I waaye sana soo kale intana waxaa waaye e also kana inta I waaye intana e waa saxsan yahay okay so waxaa marka haddeertaan kuu sheegi doonaa extension live server la dhaho number 1 horta right click meesha aan dhaho wuxuu qabanaysaa kuu tuso kadib waxaa leeyahay open with live server adig open with live server haddeertaan waa ogaa kuuma shaqeyn doono waa haddii marka live server ahdo hore aadan u adeegsan jirin so marka live server wuxuu ka caawinaa tusaale code-ka hadaa imaado oo meeshaan hadda oo maybe SSS aan ku qoro save aan dhaho so you see isla markii SSS soo galay oo anagu wax refresh ama wax sameynin marka waxaas waxay iga caawinaya waxay tahay live serverkaas hadaa u baahan tahay ama hadaa hore waysid waa baysatay hadaa u baahan tahay waxaa sameysaa extension add then live server qor waa kana midkan ugu horay click ku sii so then install dhaho haddeerta anoo iisoo degsanaya marka si wadan hal mar waxa u baahannahay for now ina qorno CSS keena CSS inta la gaarin koor waxa u baahannahay hadda sidaalkiis meeshan password marka ku qoro lama arkayo password marka waxa raba inaan sameeyo icon yar oo passwordkaas mar itusayo marna iga xiraayo so waxa sameeyna iconkaas saa u helo waxa isticmaali doonaa library lagu magacaabo font awesome kaasoo naga caawina in iconiska helno so halkan waxaa leeyahay font awesome CDN ereygan CDN waxa laga soo gaabiyay macnihiisu waxay tahay content delivery network so wuxuu ku qabanaa inaa heshid file website-kaaga banaankiisa yaalo ina adeegsatid yani file server kale yaalo ama website kale yaalo ina adeegsatid so waxa sameyn doonaa marka linkigan koowaad ama website-kan CDN.js-ka booqan doonaa linkigan ku dhufan doonaa so waxa inoo soo bixi doona wajigan then waxa sameyn doonaa linkigan ugu hore oo baahana inaa koobiyeeyo so laba qaab loo koobiye karaa URL ahaan iyo tag ahaan so anaga tag ahaan aan koobiyeynaa midkan dhaxal click ku siinayna buttonkan ama iconkan so marka click ku siisid waxa ku laabanay code-kaaga then title hoostiisa imaan doona kadib comment ii sameey font awesome CDN link for now control V meeshaana code-kayga dhigan doona also waxaa markaa fine connection ku sameyn doonaa CSS iyo HTML kana isku xiro meeshaan waxaa leeyahay asna custom CSS link also asna link yaa leeyahay then tagas markaa furo xiro href waxaa ka dhigi doonaa for now css/app.css for now aan baroobeena markaa in CSS keena HTML keena isku xirnay waxaa imaanaynaa app.css kadib maybe body aan dhahno for now waxaa leenahay halkan BGC red oo kale yes you see red oo isku bedelay so macnaheedu waxay tahay waa isku xirnay HTML keena iyo CSS keena okay for now waxaan sameynaynaa waxaan iska masaxno waxa u baahannahay inaan helno nashqado kala duwan oo marka fonts ah kaliya hadeerta hal nashqado u baahanayna nashqadaas saa u helno marka waxa isticmaalinaa asna website kale ama CDN link isticmaalinaa for now waxa aadayna Google Fonts website la dhaho shirkad Google leedahay so waa kana midkan ugu horeey click ku sii then wuxuu ku keeni doonaa halkan so halkan markuu ku keeno qaybtan searching-ka waxa ku qoraynaa Bopinis aad farta doontida isticmaali karta laakiin fartaana jeclahay so Bopinis marka dhaho ama aad hedhow marka fartaada soo dooratid get font aad taaban doontaa so kadib waxa leedahay meeshaan ay ku qoran tahay get embed code so ada Android DCS ada iOS DCS Flutter ada tahay developer so adeeg ugu xirantaa marka web maadaama hadda aan sameynayno web taabanayna so as link au sameey karna ama import so import ahaan aan adeegsanayna so sida arkaysid marka style taagu wata anaga waxa rabnaa code kan dhexe kaliya midkan dhaxa control C leeyahay so waxa ku laaban doona code keena for now halkan comment ya sameeyno waxa ku qoraynaa Google Fonts CDN link for now halkan marka waxay soo qaadna ku paste gareynaa control V so kadib waxa sameeynaa halkan sida arkaysid semicolon ka maqan marka semicolon kaas u yeeli doona
so for now waa okay. Marka intaan waxaa ku xijinaynaa inaan sameyno custom default css kana wax ka bedelno. Okay, sidaas kaga xirno maxaa la dhihi jiray default css ka waxaa sameynaynaa number 1 comment aan sameysano oo halkan aan leenahay. Okay, comment lama baahno for now, hadii kale iska tirno. waxaa sameynaynaa kaliya calaamada start ama xidigta, then waxaa furaynaa parentheses waa xiraynaa. so waxaa leenahay number 1 margin-ka naga xir oo waxay naga dhahdaa 0 default margin-keena, also padding-keena asna default-giisa ka dhig 0. box sizing-keena waxaa ka dhigtaa asna border box. also waxaa sameysaa font family-geena waa bedelay asna, waxaa font family default inuu noqon doono single quad. font family-ga hadeertaan soo qaadnay sababta single quad loo furayo waxay tahay markaasoo font family banaanka ka adeegsanaysa waa inaad isticmaashaa single quad-kaas ama double quad. so single quad-ka ugu fiican Bopinus aa dhaho. so waxaa leeyahay comma sans serif waxaa ka wadaa haddii markaa Bopinus la waayo, yani font family-ga haddii la waayo oo qofka internetka uu ku xun yahay ama linkigan uu shaqeyn waayo, waxaa sameysaa sans serif. waa mid oo markaa default ah oo browser-ka lagu keeno, midkaas adeegso wuxuu u shahbadaa Bopinus-ka. okay, marka css-ka kale intaan guda galin hal mar waxaa rabaa marka sida hadii ku sheegay hal mar da ku laabto result-ga inaa meeshan ku soo daro marka password-ka wax hide iyo show ah. so waxaa sameynaa marka hide iyo show-gaas si diyaarsaneynaa. waxaa aadaa marka index page-keena, kadib waxaa aadi doonaa password korkiisa. so waxaa sameynaa div lagu magacaabo form control. divkan meeshuu ka xirmaya soo gareena control x, then waxaa ku xiri doonaa halkan. also mar kale divkan oo kala sameynaa asna waxaa ku xiri doonaa custom confine password-ka control x control v. yes, sababta divka uu gelinayo waxay tahay css-ka dhuusa noogu caabiyo. marka meeshaana waxaa soo geli rabaa tag kale. tagaas waxaa lagu magacaabaa itag. markaa sameeyo class aa leeyahay, kadib waxaa sameyn doonaa fast waxaa maxaa ka wadaa hadeerta hal mar haddaa ku laabto mar kale akoobiyeeyo then halkan aan dhigo. for now haddaa ku laabto code-ka result-giisa you see meeshan waxaa kusoo kordhaya 2 il ama icons oo marka indha ah. so icons-ka indhaha wuxuu ka imaanayaa code-kan aa qore. so marka code-kan ma ahan inaa xifdisid adi markaso saa u adeegsid kaliya waxaa sameynaya adiga hadaadan xifdisaneen font awesome aadad uu kugu cusub yahay. font awesome marka aadid icons dooro. website-kooda international-ka waa kan maahan cdn-ka website-ka kasoo qaadanayna. so marka icons soo doorid halkaan imaan doontaa, kadib meeshaana waxaa ku qori doontaa icon walba aad rabta magaciisa. tusaale hadda eega hadda aan sameynayn oo kale aan qorno you see waxaa kusoo baxayo icons badan oo markaa ah. kuwa hadda pro ay ku qoran tahay macnaha waa lacag ama professional waay. so free haddaad taawatid waxaa arkaysaa icons-ka bilaashka ah free aad taaban doontaa. so icon-ka u baahan tahay keligaa ku siin doontaa. so markaa kilig kusoo siisid waxaa kusoo bixi doono baabkan. so halkan sida arkiis waxaa ku qoran code-ka hadeerta aniga aan qorayna. marka adiga code-kaana soo koobiyeysanaya. haddaa react isticmaalaysa react-aad dooran doontaa, haddaa rabta sawir ahaan oo soo degsan karta ama sawir ahaan oo soo qaadan karta, adeeg kugu xiran tahay. so hadeertaan marka sidiisa ku wadeena html ahaan, kadib keligaa ku siin doontaa oo lagu soo koobiyeynaa. marka lagu soo koobiyeeyo waxaa imaan doontaa halkan, then haddaa paste ku dhaho you see waa code-kii oo kale. saasa adigu adeegsan kartaa icon walba aad rabta saasa yeelay. so hadeertaan marka anaga icon-keenu already waa diyaarsane. iska xirno kan iska xirno for now looma baahno, kanna looma baahno. okay, so hadda waa kusoo darnay labadii icon. marka hadeertaan waa gali karnaa css-keena. marka code-ka ku laabano app.css a imaano waxayna idil already waa diyaarsane. so waxaa leeyahay halkan comment custom css is here. okay, so waxaa sameyn doonaa number 1 waxaa wici doonaa body-ga wax ka bedeli doonaa. so body-ga markaa waco bgc oo kale background-kiisa xoogaa taawana. background-giisa waxaa ka dhigay doonaa color-kan. also waxaa sameyn doonaa width waxaa ka dhigi doonaa 100% width-giisa. also height-ka waxaa ka dhigi doonaa 100 khalaas wax kale ugu baahanahay malahan. then waxaa wici doonaa containerkii guud oo daatadii aan kusoo shubnay aa wici doonaa class-kiisa. so waxaa leeyahay containerka asna width-kiisa waxaa ka dhigi doontaa 100%. also height-kiisa waxaa ka dhigi doontaa 100 vh.
so as waxaa dhehaynaa waxaa isticmaalaynaa flux box waxaa dhehaynaa displaygiis flux ha noqdo also waxaa dhehaynaa justify content center justify content center also align itemskiisana center khalaas align itemskiisana center tan waxay naga caawinaya in daatadiin hal mar ku laawno sida arkiis daatada inaan dhexda lagu soo koobi doona oo responsive uu noqon doona flux boxka markaa naga caawinayo intaana naga caawinayo display ina flux ka dhigno oo justify content yani content oo idil center kala keeno dhir ahaan center loo keeno kulay basiga HCSS ka waa ina aadaadan fahansaneen ilan ko hara ku sheegay kaliya qof professional inuu ka baxsan karo hawshan so adoo markaa container then adoo for now adoo maxaa lii jiray class-ki xigay so class inoo xigin form ay noogu xigay so form markaa dhaho formka markaa waxa sii doonaa asna bgc white ah also waxa sii doonaa width oo markaa qiyaas ahaan adiga content vh iska dheh ah also waxa sii doonaa height oo auto ah sidoo kale waxa samee doonaa badina ku dari doonaa oo 20 pixel ah also waxa ku dari doonaa box shadow ku dari doonaa ama shadow caadi shadow box shadow ku dari doonaa waxa leeyahay 1 pixel 2 pixel 4 pixel minus 1 pixel RGBA so 0 halkan 0 halkan 0 halkan 0.28 only for now ada soo fiirino intaan aadin kor hal waxyara ku daro border radius ku daro or maybe 10 pixel ah khalaas hadeertaan soo fiiriyo you see now xoogaa formki hadeertaan waa la fiirin karaa inkastoo daatada dhexda uu khaskhassan yahay laakiin intaan waynoo qurxooyaa for now okay so waxa sameeynayna hadda marka ina daatadaas kale wax ka bedelno form.container ah dhehayna so waxa marka dhehayna header-ka wili khaasatan h1-ka color-kiisa waxa ka dhigtaa maybe 01 ee for 2 inuu yahay jala yes waa color-ka loogadeena so you see now registration form also waxa sameeynayna xoogaa font size ka yareynayna font size kiisa waa too much maybe 30 pixel ka dhigno yes you see now fit way okay also meeshan 52 oo kala ka dhigno khalaas waxa kala sameeynayna hadda inputyadii hooshooda ina galno so hal mar inputisko idil aad dooran doona input kadib waxa leeyahay input border ka number 1 horta waxa ka dhigtaa 1 pixel solid colorkiisna black ka dhig also waxa sameeysaa inputska ku sameeysaa outline wax la dhaho dhan non ka dheh also waxa kale oo sameeysaa waxyar oo border radius maybe 4 pixel ku dar for now inputskeena what the hell 1 pixel 1 pixel solid waxa ka khaldan container border don't know fresh what the hell okay dib malahan kan hal mar waxa ku soo dareynaa display falkiisa ka dhigeynaa formka kadib waxa dheena flux direction-kaaga waxa ka dhigtaa ama daatada meesha ku jiro as a column ahaan u dhig flux direction-kaaga waxa ka dhigtaa column so for now yes daatadii waa soo hoose yani way soo imaanayaan laakiin I don't know button wax input wax ka khaldan border 1 pixel okay hal mar xero commentigan okay dhibaatada maybe outline kan aan not sorry flow brace meeshan oo border ka dhigay inta border radius ka rabaa yes you see for now meeshaas error inaga haystay okay also waxa wacayna hal mar hadda xasuustid waxa soo sameeynay class la dhihi jiray form control classkaas wacayna so inputka korkiisa aadayna waxa leenahay form control form control what the hell control okay so diffy dot asio parenthesis for parenthesis here for now lama baahna kan okay so waxa leeyahay wadigiisa waxa ka dhigtaa 100% yani so kuwan ula facaado yes laakiin wili error jira asna waxa leeyahay sida daayo oo kale number waxa leeyahay positionkiisa waxa ay dhigtaa ninkan relative also ninkan waxa ku sameeysaa khalaas wax kale looma baahna ninkan in loo sameeyo so kaliya waxa leeyahay marka la isoo koobiyay
iso copy iconka i-ga waxa yani i tag abici doona positionkiisa waxa ka dhigaa waxa la jeedaa iconka macnaha absolute la ka dhigaa so kadib waxa si sameyn doona haddana waxyaalaha asiga gudihiisa ku jiro inputska yani inputska password asiga gudihiisa ku jiraan mogta inputskaas abici doona iyagana widdigooda waxa ka dhigi doona 100% si wixii dhan ay noogu qurux badnaadaan so for now da fiirino hal mar you see now all waka fit way kuwan intana keena loo baahnaan doona laakiin waa arkeena so marka saas ay noo ahaadaan inputskana ay ku soo noqoneena waxa leenahay inputskan wax yar oo bad ina ku dareena okay ama meesha horta number 1 color gam zaid way maybe 333 oo kale yes so now waxa ku daraa badin yar sorry badin yar ku dari doona oo 7 pixel ah kor iyo hoos labada dhinac 20 pixel ah yes for now you see okay oo noqday waxa kale oo ku dari doona border radius kiisa waa xayar waxa ka dhigaa 6 oo kale خلاص waxa kala sameyn doona labelska color kooda ina bedelo labelska color kooda waxa ka dhigi doona halkan label ka dhig labelska color kooda waxa ka dhigi doona asna 333 or 444 oo kala ka dhigo say noqon doonaan aragno yes you see now okay waxa kala sameyn doona wili in wax yar oo margin ah sameeyo so waxa leeyahay kuwan margin ku dar margin oo top 5 pixel ku dar labada dhinacna wax margin ha sameeyay top iyo bottom 5 pixel ku dar you see now datadii dhan way kala fogaadeen oo done way for now wax dhiman ma lahan kaliya waxa dhiman aygan ina marka aad dhahno right aygan ina dhahno right waxa aad right waxaana ka soo sigataa 10 pixel maybe 5 pixel okay 5 pixel wase yeah 5 pixel okay so topna waxa ka soo sigataa 2.1 rim ka soo sigo yo zaid way 2.1 I don't know waxa khaldan 2.1 rim tahay 1.5 hada ka dhigana maxaa kan halkan geenayo waa su'aale right hal mar halkan soo jikareeyo form control ka halkaana ka furay waa email okay sorry form control kiya waxa geeyay input ka emailka marka input ka emailka kad ah dhaho meesha asiga laga marabo asiga waa group gooni ah marka okay wili label kiisna kad ah dhaho sorry ah yes for now you see okay waa marka meesha hadda 2.1 ka soo dhigana marka 2.1 no fit yahay ila tahay iyo wili yar wax yar jiro 2.3 oo kale for now yo man خلاص 2.4 waa fit waxa kala sameyn doona input iskana waxa raba marka focus kala saaro oo click lagu siiyo ama iyaga la joogo in color kooda la bedelo ama border kooda in la bedelo 1 pixel solid sorry 1 pixel solid also waxa raba color kooda in laga dhigo green kan yo for now aprobe arintaas in shaqeynayso in kale you see now you see okay for now waxa kaliya inoo dhimanaa waxay tahay register now-ga ina haweeno so asiga maadaama button gooni uu yahay inta inoo soo koobiyay waxa dhaha marka button oo type-kiisa uu yahay button ama meeshan submit ka dhigaa ilaa hadhow submit kor ilaa in noqon doona sax marka wax aado type-kan waa soo bedelaa meeshan submit ka dhigaa ilaa php qori rabnaa hadhow marka ina dib ugu soo noqon meeshan mareeb submit ka dhigaa okay for now marka waxa sameeyna adna meeshan submit ka dhigo ah login ilaa php qori rabtaa marka bgc waxa ka dhigi doona green ki hadeertaan also border kiisa waxa dhigi doona non border also waxa sameey doona color kiisa waxa ka dhigi doona white for now inta soo jigreno yes you see now beautiful form of sameeysan inta ku akeen doona also waa responsive marka also waxa waaye responsive hal mar responsive kiisa ayagno white meeshan xoogaa cashier jiro for now yes you see responsive kiisa waka fit waa marka hadeertan waxa saan ku diyaarsanay registration form keena then videogan wax yar oo hadeertan oo wax yar dhiman oo ah ina marka ku darno meeshan
javascript yar oo inoo shaqeysiyo soo hadeertaan waqtiga inagu dheeraanayo for now halkaan ku joojinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu assalaamu calaykum developers isku soo noqod wanaagsan sida wad ognahay waxaa soo diyaarinay user interface kan quruxda badan ama registration form kan soo waxaa ku daraynaa for now javascript also muuqaalkan waxaan ku diyaarinaynaa login system keena ama login form keena diyaarinaynaa sorry system form keena okay so aada markaa code editor keena so waxaa sameynaynaa for now javascript yar so number 1 horta inta javascript aan aadin waxaa imaan doona html-ka kadib waxaa imaana ay taagana waxaa ku dari doonaa halkan labadana isla doorto hal mar kana aad doorto saa doort waxaa isla qabataa alt qabo then kan click ku sii so labadooda hadeertaan isla dooratay labadooda wax ku qori kartaa marka waxaa leeyahay on click hadii lagu siiyo waxaa sameysaa function show la dhahayo koodkan waa javascript wuxuu markaa dhahayaa hadii on click yani hadii baalkan ishaan hadii click lagu siiyo function kan tour ama function kan diyaari oo show la dhahayo so function kaasoo diyaarina also waxaa sameynaa input yadan oo type-kooda password-ku uu yahay inaa ku daro class inaa ku darsado so waxaa leeyahay class ku dar oo la dhahayo maybe like ama sidooda iskaga dhaafo sidooda ku wici doonaa class la-aan javascript ku laabto marka javascript aada waxaa sameyn doonaa comment yar meeshan waxaa ka dhigi doonaa hide and show password js code okay for now number 1 waxaa leeyahay waxaa ii sameysaa function kaas waxaa la dhahaa show macnaha haduu jiro function show la dhahayo macnaha intaan so function kan show intuu imaanaya meeshana waxaa soo dhaana di on click la sameeyo show store marka showgaas hadii la soo marka show la sameeyo javascript-ga waxaa sameysaa marka let waxaa keedisaa number 1 input oo kale ama password password input akabadna so waxaa dhahaa marka document.query selector all of maxaa marka wax ka soo la dhahayo input ka soo macna oo type-kiisa for now type-kiisa uu yahay type-kiisa uu yahay password input ka soo type-kiisa password uu yahay isoo qabo okay meeshaan let aa leeyahay haddana waxaa ii sameysaa also icon 1 oo kala dhaho waa iconka koowaad inti iconku haduu isbedeli doonaa waxaa rabo iconkaas markaa click lagu siiyo inuu isbedelo /a uu noqdo yani ishi inuu qaabkiisa isbedelo arkeena so waxaa leeyahay icon 1 hala mid noqdo asna document.query selector all of ay maxaa all of waxaa isoo qabataa iconka soo la dhahayo fa meeshaan marka dot aa dhaho sorry inta dot aa dhahaa maadaama class ahaan uu yiraahdo faa iconadaas isoo qabo okay for now marka waxaa sameyn doonaa for each lua isticmaala meeshaan sorry meeshaan aa ka dhigo passwords aa ka dhigo passwords aa leeyahay marka passwords aa wici doonaa sorry passwords aa wici doonaa so waxaa leeyahay dot for each mid kasoo iyaga ka mid ah waa furfuri doontaa waxaa sameynay password waxa la dhahaa then arrow then halkan semicolon aan dhigo also gudahana marka ku shaqeynaa enter aan dhaho so parenthesis aan furanaa waxaa leeyahay marka mid kasoo iyaga ka mid ah maxaa ku sameyn doontaa waxaa ku sameynay marka if haddii marka so waxaa leeyahay haddii password kana adeegsanaa haddii password dot type marka inputka waxaa ka wadaa password haduu type-kiisa la mid yahay equal haduu la mid yahay type-kiisa password for now waxaa sameysaa marka haddii type-kiisa uu password u noqdo maxaa sameynay type-kiisa bedel maxaa ku bedelay marka adhaho password dot type equal hala mid noqdo text for now xirno semicolon also else marka haddii arintaas aysan jirinna waxaa sameysaa password-keena sidiisa haynoo ahaado that's mean haddii oo meeshaan password uu ahayn oo text uu yahay password soo bedelay macna tahay so marka intana aan dhaho password hal mar aad arkaysid marka wax qoraayo qoraal yar oo mugdi ay daba qormaa you see so qoraalkaas waxaa waaye as AI waaye oo waxyaalaha qaar ku soo xasuusin doonaa inkastoo si sax uusan wax ku soo xasuusinayn laakiin wax ku faa'iidi doonta yani so marka extension waxaa jira tab 9 la dhaho extension is imo tab 9 qor tab 9
ayaa ku caawin doona extensionkaas waa kana soo degsa marka saan u egyahay. Okay, for now asi wadana marka waxaa halkan dhihi doonaa password ka dhig type-ka intaan kaliya. For now abrobena ma noo shaqeyn doonaa code-kan hal mar meeshaan imaado then waxaa ku qoro haddaa hal mar ishaan aad click ku siiyo. Okay, error aad jira maybe mar kale haddaa ishaan click ku siiyo I don't know wax khaldan eego console. Okay, show is not defined. What the hell? Show is not defined. Show inta saa u qoray iyo halkaas saa u qoray maxay kula duwan yihiin I don't know. Show also intan waa show. Okay, sorry error next waxay tahay connection man sameyn yani page keena javascript-ga iyo page keena html ma la isku xirin marka waxaa leeyahay halkan script crc yani waxaa khasaba page walba in page kale ku xirtay sida css-ka iyo index-ka isku xirnay sax. So marka javascript-geena ku xirayna waxaa leeyahay app.js. For now yes, for now wuu shaqeyn doonaa sure. You see now wuu shaqeynaya. You see hadda password agiliyo oo click halkan asiyo waa ka wuu isku bedeli doonaa san. Also marka waxaa rabaa soo laabta halkan meeshaan iska soxo equal inaa dhaho meeshaan equal inaa dhaho waaye password.type equal. For now waxaa rabaa haddii click lagu siiyo inuu xiro haddii click lagu siiyo inuu furo I don't know ma shaqeynayo for now afiirina maxaa khaldan halkan maxaa khaldan. Okay asxaabe error-kan haysta waxay tahay meeshaan kaliya waxaa wuxuuna input type-kiis uu yahay password marka sida daa inoo fiican meeshaan waxaa sameynaynaa class name oo la dhahayo b input oo aan kasoo gaabiyo password input. Error-kan haysta taas ah cause of waxaa meeshaan ku wuxuuna as password ahaan meeshaan fiiri type-ka waxaa loo bedeli doonaa text. type-ki text hadii loo bedelo macnaheedu waxa waa kan mala wici doono ilaan kan waxaa wacnay wax kasoo marka qaabkaas ah. So maybe aad way la fahanteen marka waxaa sameynaa misdhibaay kaliya inta ku laaban doona input-yadan oo password-ka ah waxaa u sameyn doonaa class name-kana u sameyn doonaa also input-kan kale oo asna password-ka oo aabe what the hell yes asna class-kana bast ku dhihi doonaa oo class-kana sii doonaa class yes. For now wuu shaqeyn doonaa marka haddaa ku laaban code-keena result-ga. So yes now you see what the hell really macquul maahan I don't know error-ka saan u filayay mana shaqeynayo weli what the hell meeshaan ma double squad ma ka dhignaa waayahay meeshaan double squad daa ka dhigno bismillah. Yes you see now wuu shaqeynayaa double squad-kaas ma ahane equal-kan kale waaye haddii meeshaan single squad-kiisa ku celino waxaas dhigi kartaa ma ahayn marka inaa wixiina soo bedelno marka waa khasab inaa meeshaan soo bedelno hal mar fiirino haddii type-ka daay sidii aan ka dhigno manoo shaqeyn doonaa. error fara badan haddana haystay type inuu noo shaqeynaa in kale ajigreno type-ka haduu yahay for now password aan dhahno for now aragna marka hadduu error-kina haystay kan uu yahay haddii kale you see error-ka kanna wuu ku jiray. So laba error aan haystay meeshaan laba equal u isticmaalne also meeshaan marka meeshaan aad sidiisa hore ku celinino oo class name-ka u isticmaalno. For now done waa dhameynay kaliya waxaa inoo dhiman icon-ka inaa bedelno icon-ka markaa taabano inuu isbedelo markaa taabano haddana inuu isbedelo also color-kana xoogaa baa ka bedeleynaa. Okay so marka waxaa kala sameynaynaa inta kan marka la koobiyeeyo inta icon 2 ah ka dhigo icon 2gan waxaa sameynaa asna meeshaan slash dhaha slash a yani isha kale markuu noqdo asna si loo bedelo. Okay ama a slash u ahaa maybe a slash saas inuu waa jeclaha arkina. Okay so waxaa dhaha marka haddana gudahana for each kale ku sameynaa waxaa leeyahay let's say icon 1.for each waxaa bixinaa icon 1 oo kala bixiya equal arrow. So maybe waxaa leeyahay meeshaan waxaa leeyahay
parentheses then waxaa leeyahay marka waxaa sameysaa ico1.class_list.contains hadduu ka kooban yahay muxuu ka koobnaana hadduu ka kooban yahay class listigiisa sorry bro bro aa dhahay bro or sister yani sister inay daaweysa laga yaabaa so waxaa leeyahay if marka meeshaan waxaa leeyahay ico1 if marka haddii ico1 sorry .type ma type maaha what the hell .class_list.contains oo ka kooban yahay so muxuu ka koobnaana hadduu ka kooban yahay class listigiisa you will make waxaa sameyn doontaa else ec diyaari waxaa sameyn doontaa replace inaad sameysid so waxaa leeyahay ico1 .class_list.replace what the hell .replace hadduu yahay waxaa ku replace gareysaa waxaa ku replace yani replace waxaa ku replace garey leedahay sheegay so waxaa leedahay slash for now intaan yar hadduu shaqeynaa fiirinaa kan kale intaa guud galin refresh ma u baahno for now yes you see iconka uu isbedeloya laakiin waxaa rabnaa haddana markii la taabto inuu dan isu soo bedelo so waxay noqonaya else-ga inaan kasoo shaqeyno for now misdhibeeno for each kana sidiis usoo koobiyeynayna for each kan iconka aan sidiis usoo koobiyeynayna else-ga la keenayna markaa keeno bastia ku dhehayna like meeshaan isbedelayo oo ico1 waxaa noqonaa ico2 also intana 2 for now 2 خلاص meeshaan wuxuu isku bedeli doonaa slash isku bedeli doonaa also inta wuxuu noqon doonaa slash meeshaan slashkii waa laga bixin doonaa so waxay inaad ku wareertana laga yaab inaad ila socotid laga yaab haddaad ku wareersan tahay horaan kugu sheegay basic maahan kan yani waa practical only so marka aan sameyno hadeertaan meeshaan aan gelino password then aan sameyno inaan click siino you see yes for now waa dhameynay waa intaan oo waxaa kaliya noo dhiman login formka waa easy hooshiisa ma adko ilan haddaa soo shaqeynay shaqadii aan qabanayna maanta o dhan marabna in mar kale aan ku celino kaliya waxaan sameynaynaa file cusub waxaa bixinaynaa login.html also misdhibeena marka koodkaana sidiisu soo qaadayna control a aan dhahno control c kadib aan kasoo baxno halkaa imaano control v marka control v aan kaliya qoraaladan isbedelay tusaale meeshaan registrationka ah waxaan ka dhignaa login form also into username meesha ah waxaan raacsiinaynaa username or password class meeshaan oo emailka aan bixino for now emailkan looma baahno also kan koowaadna iska bixino midkan labaad bisa soo leeyaynaa password confirm password waxuu bixinaynaa your password class waa intaan kaliya hal mar right click aad dhaho meesha register now na ka dhigo login now so wax yar ah hilmaamay hal mar ku tuso waxaa rabaa qofka haduu register uusan yani qofka account hore u lahaa tusaale marka waxaa la rabaa meesha in loogu diyaariyo accountkiisa hore inuu raadiyo so marka waxaas hal mar ku soo dareena waa iska easy number 1 waxaan ku laabanayna index.html oo page registration inoo ah kadib waxaa imaanayna buttonkan hoostiisa kadib hal br oo kala iska gashanayna so for now waxaa leenahay meeshan waxaa ku diyaarisaa pdf ama p tag kadib meeshan waxaa ku qoraysaa also have account marka waxaa ereygan account waxaa ka dhigaynaa a tag si qofka markuu account oo click ugu siiyo uu markaa accountkiisa uu aado so meeshan waxaa leeyahay capital account also have account sorry also maahan meesha waxaa ka rabaa what the hell already akrawaa sorry already have account so meeshaan linkiga waxaa uu dhigi doonaa login.html qofka duu meeshaas ku dhufto so login.html aado marka meeshaan dhow isbedelay php isku bedelay laakiin for now practicalkeena maadaama oo yani hadeertaan chapter 1 aan ku jirno aan ku dhaafno .html-ka account meeshaan ka dhigne so khalaas calaamad su'aal yar ama calaamad cajib iska raacsiino hadaa ku soo laabano hadda halkan you see now hada click ku siiyo wuxuu geenaa login formka you see login formkeena done waaye oo waanu dhameystiran login formka kaliya waxa sameeynay registration ka soo qaadnay waxaana ka badbedelnay oo waa soo gagaabinay kaliya waa easy hada hal mar soo dhidid mar labaad ma dhidideysid macna
okay intaan sidiisa u koobiyeyno anagoo isdhibin marka koobiyeyno loginka ageena asna login qofka markuu login yahay maxaa la rabaa haduu login yani uusan ahayn oo registration inuu sameeyo marka waxaa dhahaa I don't have account meeshaan I don't have any class I don't have any account markuu click ku siiyo meeshaan login kale waxaa ka dhigi doonaa index.html for now afiirino refresh uma baahno hadii I don't have account da ku dhufto registration ku keena hadan account kan da ku dhufto okay meeshaan passwordkiisa ma shaqeyn doona for now you see yes kana asko huino asina ma shaqeyn doona labada good kan uu shaqeeni also good kan uu shaqeeni waa inta kaliya so chapter keeni koowaad intaanu eg yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh assalaamu calaykum developers kusoo dhawaada chapter keeni saddexaad chapterkan saddexaad waxa ku baran doonaa sida hore u soo sheegay ina marka qorno code keeni php ga aha also ina diyaarsana database formyadii aan sameeyay xogtii lagu shubay si automatic in database keena loo geeyo also waxa ku sameyn doonaa chapterkan ina sameeyno dashboard oo marka qofka markuu login sameeyo la geen doono so kusoo dhawo muuqaalkeeni waxa sameyn doonaa number 1 hadda xasuusatid waxa soo dejinay software lagu magacaabo jiray exam softwarekaas ina installation ku soo sameeyno so waxa aadina softwarekaas meesho inuu yaalo aad download disk inuu ku yaalo download disk aad do meel kale ageysatayna meeshii ageysatay aad for now hadeerta aan halkaan u yaala meeshana click ku siin doona ama click waa kana saan u eg yahay exam then shaashad yara ii soo bixi doono maybe screen recording inuusan qabanin kaliya waxa dhii doontaa yes so hadeerta sida arkaysid wuxuu ku leeyahay waxa ku saari doona datadan ad interface kugu jiro yes also wuxuu ku hubi doona inaad tahay userka marka kaliya computerka adeegsanayo okay and then next setup kiisa waa iska easy meeshaan waxyaalo badan jiro haduu tiktok ka qaado waxa kaliya muhiim ah inaad tiktok ku saarnaado MySQL also PHP MyAdmin waxyaalaan kale iska saarnaado ama iska dhaaf adeeg kugu xiranta so for now next dhaho also meeshaan ugu muhiimsan marka inaad fahantid meeshaan wuxuu ka codsan doonaa inaad dooratid meeshii daatada lagu dhigi lahaa so anaga waxa leenahay hadda click also hal mar waxa soo sameeynaa folder empty ah wuxuu aqbali doonaa kaliya folder eber ah so halkaana waxa ku create gareyn doonaa control shift n folder la dhahayo exam oo kale exam ina u bixida fiican markaso exam sorry yes exam maybe saan u qoran yahay exam wp yes okay marka folder saan u sameysid خلاص folder kaas marka select gareynayna waxa aadina mesh folder ka ku soo sameeyay folder kaas choose gareynayna marka folder data ku jiro hada choose gareysid uu ka diida folder ever ina soo sameysid waa magaca doonto baxso laakiin exam ina u bixisida ku qurux badan tahay you see folder kaas soo sameysana click siina okay for now next hada dhaho then luqada ingiriisi luqadan kala ku jiro so ingiriisi ku dhaafanayna next then next installation ka inoo bilaaba so waqti yar installation qaadana waa isku soo noqonaynaa markuu installation ka inoo dhamaado okay hadeertan oo noo dhameeyay installation ki so installation markuu ku dhameeyay kadib waxa aadi doontaa number 1 folder ki aad sameysay so folder ka hadeertan aad sameeyay waa kana aad soo furo sida arkays intaan file ku soo shubay marka fileashan oo idil muhiim ma kaliya waxa muhiim inoo ah htdocscan so bina leeyahay marka htdocscan click ku si so bin to quick access so halkan lagu bin gareyn doona sorry already bin waa aha amlena bin to quick access yes you see halkan bin lagu sameyn doona waa kana marka bin inoo la sameeyo markaas adeegsan doona saas darteed halkan bin ugu dhigay meesha ma soo galgali karin marka folder kana markaas waxa ku create gareyn doonta gudihiisa data walba sameeynayso arkayna so number 1 marka waxa loo baahan yahay searching add ina marka software ki aan daarno ama aan soo kicino so waxa qori doona exam marka qoro waxa dhihi doona open marebi hal mar ku laabto marka la qoro so waxa leeyahay run as administration ama as administrator so daaqad yaday oo kala soo saara daaqadan screen recording inaysan qabina macquula so yes iska dheh so marka yes dhaadid waxa ku soo bixi doono control panel kan so control panel kan anaga waxyaalaha dhan muhiim inoo maahan labada ugu horeeya midka Apache ku qoran tahay midka MySQL ku qoran tahay muhiim inoo ah so for now first waxa sameeynaa meeshaan click asina kadib yes dheh also kan click si asna yes dheh so saarkiis labadii wax isku bedelayaan tick macnaheedu waxay tahay
markaas automatically ku daarmi doona oo ina ali daartay looma baahnaa doono so waxa sameeynaa hadeertan apache started also MySQL started خلاص intaas kaliya oo baahnaa hadda iska close gareena marka close ku sameeysid hada browserkeena ku soo laawno for now oo meeshan aan ku qorno localhost waxa u baahanaa localhost kaliya daa qorno in waxa inoo soo saaro hadii waxaan aragtid dasmiin waa guuleysatay hadii waxaan uusan ku soo bixin error ku qabsana errorkaas ila soo wadaag so akoonadeedu waxa kali doontaa description ka hoose okay so wax ugu muhiimsan oo meeshan ugu baahanaa hadeertan waxa waaye ina marka fahano sidoo u shaqeynaa waxaan inta waxaas guud galin ka hor waxa khasab ah datadan oo aad diyaarinay ama nashqadan aad diyaarinay ina geeno folderkii htdocs-ka yani meesha ina keeno what the hell htdocs-ka meeshan ku bingareeyay htdocs-kan ina soo geliyo datadii aad sameystay so htdocs-kan datada soo geliyo waa datada ina soo copy kare yani copy ah soo dhaha datada sa copy soo dhaho meesha datada iyala aado for now no sorry datada wuxuu yaala video is amleena yes so waa kana datadana marka copy dhaha control c dhaha marka control c soo dhaho waa soo baxa htdocs-ka imaana where is halkan ku bingareeyay waa kana htdocs-ka marka imaado htdocs gudiisa control v ku leeyahay for now waa save gareena datadaas so file-ka magaciisa aad u dheer yahay ama okay waa sidaan xitaa file-kan magaciisa marka waxa ku noqon doona magaca ku soo kici doontid website-kaaga ama waxaaga sameysay so marka localhost meeshii inoo aha hadeertan /dashboard waa /dashboard kana tira / dhaha file-keega ama folder-keega magaciisa then enter dhaha for now fiir wax dhacayo waxa si toos inoo soo baxayo file-sheena kan hadeertan looma baahna iska cancel marka hadeertan marka halkaana hoosheena ku wadan doona so hadeertan waxa guud galeynaa number 1 ina database aan sameysano database sa u sameeyno new type aan sameeyno localhost aan qorno localhost marka qortid meeshaan ku keeni doona then meeshaan php-myadmin ay ku qoran tahay taawane also waxa sameey kartaa localhost/php-myadmin qori kartaa hadii php-myadmin magacaas uu ka dhumayo markaas ama hilmaamaysidna localhost soo booqan kartaa okay so waxa sameeynaa marka halkan imaadid new database sameeysanayna database cusub oo datadan qofkan uu meeshan soo geliyo lagu shubi doono so database-keena kaliya wuxuu koobnaan doonaa hal table kaas oo lagu magacaabo users maadaama anaga kaliya waxa rabno in users noo la qabto bas so waxa sameeynaa new so waxa bixinayna rich iyo log خلاص database-keena waxa bixinayna registration iyo login then create button can create taawanina also hadeerta marka meeshaan uu keena also waxa sameeynaa table name ka ina ka dhigna asna users oo kale users خلاص so users ka shuruudo waxyaalaha marka meeqa column ku koobnaana column koowaad oo marka id ah also column labaad oo username column saddexaad oo email column afraad oo password confine password ajiro confine password sida arkaysid laakiin confine password kan lama soo xareyn doono oo banaanka loogu soo tagaa marka ma la xisaabinayo mid shanaad ku darsanayna midka shanaad waxa uu tala gali doona wax create data la dhaho oo ah user xilliga la sameeyay don't worry kaas asaa iswadaay also id ga asaa iswadaay arkayna so create dhaho marka create marka dhaho halkan ali keeni doona halkan marka column-yadii aad soo sameeyaa ku diyaarsan 1 2 3 4 5 marka column kaso as row ahaana loo dhigaa oo hadeertan so waxa dhaha marka column-kan id u bixi integer waa marka waa number waaye so 12 number ka koobnaado meesha ugu dheer also column-kan waxa dhaha wax la dhahayo auto increment oo ah in column-kan asaga isu wado yani id maadaama uu yahay anaga marna id-gina soo buuxin waxa rabnaa qof walba marka soo diiwaan geliyo si toos id in loo siiyo sidoo kale waxa rabnaa id-gaas haduu mar baxo in mar kale yani dib loo soo celin so waxaasna waxa naga caawinayo meesha hadeertan tigta soo saarnay oo ay qoranta oo laga soo gaabiyay auto increment okay for now username ka sameeyna halkan username wuxuu noqon doonaa farcar maadaama xarfo iyo number ugu koobnaan karo so username ka 255 waaye lengthigiis ama meesha ugu badan also email sameeyna email kaasna waa farcar asna 255 waaye meesha ugu dheer also halkan password keena asna waxa waaye farcar waaye so asna waxa waaye 255 okay for now halkan create data ka dhigi doona create data marka anaga ina soo buuxino marabi waxa la rabaa xilligaas la joogo oo userkiisa soo diiwaan geliye waqtiga waxa ku beegneed in la diiwaan geliyo so waxa jira marka
type ka caawinaya waxaa lagu magacaabaa timestamp ka in aad soo buuxisid looma baahna asa automatic isku buuxinaya also ID gana asa automatic isku buuxin doono okay for now hoos u soo daga waxaa taaban doonaa buttonkan save ee ku qoran tahay so save markaa dhaho waxaa la diyaari doonaa waxyaalahan okay no database selected I don't know users waa kana waa la diyaariyay ID username also email password iyo create data waxaan lagu dhex diyaariyay database keena so database keena hoos u aaday maybe you see waa kana rich iyo log so database keena gudihiisa waxaas oo idin loo dhex diyaariyay marka meeshan waa ka maaranaa ma ku soo laabanayno then marka aduu yani data marka ka fiirsanay bes ku soo laabanayna okay for now waxaa sameynay number 1 file keena soo qaadnay waxaa keenay htdocs-ka also waxaa soo sameynay database keena waxaan loo baahan yahay hadda in coding ka galno so coding saa u galno aymaano maxaa la jira baalkii code editor-ka iska xirno ilaan marabno meeshii hadda uu joogay so waxa aadayna htdocs-ka kadib waxa aadayna folder-keena meeshan ka dhex raadinayna folder-keena for now waa ka soo furno kadib sida caadada ah right click ah dhahno folder-ka gudihiisa kadib open in terminal ah dhahno then waxa qori doonaa sida caadada inoo ahaa code space dot so waxa inoo soo furi doonaa folder-kan gudaha Visual Studio code-keena you see code-keena inoo soo furay marka waxa sameeynayna hadda magacyada inaa bedelno ilaan waxa hadeertan ku shaqeeynaa PHP HTML-kan ku meel gaaro inoo aha waa ku soo dhisanay laakiin PHP oo bedelayna marka so extension waxa ka dhiganaa halkan PHP also kana waxa ka dhigaynaa file type-kiisa PHP I don't know kaas muusan bedelmin marka yaa soo bedelma hadeertan so waxa kala jiray adaa xasuusatid linkiyo oo hadaya ku sheegay meeshan waa bedeli doonaa ku dhaa meeshan kamid ah .html marabna waxa rabnaa .php also login kan asna waxa rabnaa inuu noqdo halkan .php so for now save also kana aan save gareyno okay waxa ugu hore qori doono maahan inaan galno hore php ka bilaabno waxa sameyn doonaa su'aal is weydiinayna hadeertan waxa inoo diyaarsan documenti also waxa soo diyaarsan database marka database keena iyo code keena sida isku fahmi doonaan ilaan datadan markii la sameeyo database kala geerow yaa u sheegay so waxa jiro file lagu magacaabo connection number 1 folder sameeynayna waxa u bixinaynaa config so folderkaas config gudihiisa waxa ku sameyn doonaa file oo connection waxa soo gaabinaynaa kaliya ereyga con so con.php yaa leenahay fileka con.php markaas sameeyno so waxa leeyahay number 1 meeshan waxa dhigi doonaa comment connection file so waxa sameyn doonaa php ya furi doonaa php ya xari doonaa so halkan waxa ku sameyn doonaa variables kaas waxa ku shubi doonaa hostname ka loo socdo also in la sheegal raba meel hebel aad kadib user hebel aad password kaas ku gal kadib database kaas inoo door ina saas dhaana rabna so number 1 waxa ka bilaabeynaa hostiga loo socdo so hostname keena hala mid noqdo variable ka hostname ka ku shubi doonaa waxa dheena local host hala mid noqdo also waxa dheena username ka loo socdo ama user ka loo socdo ha noqdo user lagu magacaabo root okay for now waxa kale dheena password ka lagu gali doono password or bas ama host password dhahno host password ha noqdo non ilan password ma u sameeynin root yani password la'aan lagu gala macna hadii password uu leeyahay password kaaga meeshan gali doonta ada password hore u sameeysatay okay so for now meeshan waxa dhihi doonaa db name ama database ka loo socdo ada xasuusi database keena waxa ka soo dhignay rich iyo log خلاص waa inta for now waxa sameeynay variables so variables kan wax shaqo ma noo qabanooyin kaliya data ku shubnay datada in laga shaqeeyo raba marka number 1 variable kala sameeynayna oo con la dhahay ama connection laga soo gaabiyay so variable ka connection ka waxa dhaheena waxa ku shubtaa mysqli connect ku shub yani mysqli connect waa function ka soo ka caawinaa in database ku xirmatid so waxa furi doona bracket so killer bracket marka furo kadib waxa dhigi doona halkan hostname what the hell hostname okay sorry meeshan waxa rabaa inaa ka dhigo double squad so for now waxa dhaha hostname also comma meeshan waxa dhigi doona asna username yani variables kaas wacan doona mid ogow sida iskugu xijxijiye hada marka kala hormarsiisid khalad ay noqon doona
وشرع خابك إن السكوك حجيو. Okay. For now waxaa dhihi doonaa halkan host password okay comma then database ka sheegi doonaa waxaa leeyahay db name خلاص for now connection ka waa sameeyay hadda imaado hal mar kana iska xiro also kana ama hoos iska dhigtaba okay hadda halkan imaado hadeertaan oo kadib slash dhaho aawaco folderkii config yani waxaa rabaa inaan galo connectionka soo markas folder ahaan oo adeegsani config aa leeyahay /con.php for now meeshaan slash ka rabaa /con.php for now hadda connectionka aa galo waarkoosa connectionka imaade wax liima sheego error ma jiro I don't know soo marka error inoo jiro in kala saa wax xaqiijiyo waxaa abuuri doonaa xaalad hadii waxaan ay jirto waxaan la sheegay hadii waxaan ay jirto saas dhigi doona soo xaalad saa abuur comment ya samee meeshaan condition abuuri doona conditionka abuuri doona wuxuu noqon doonaa marka if hadii okay hadiidaas maxaa waa hadii connectionka la sameeyay oo true yahay hadii saa aad macnaheedu waxa waa true hadii true uu yahay maxaa la sameeyna echo waxa ii soo daawacdaa connected ii soo daawac yani waa ku xirtay okay else hadii kale marka oo false yahay oo connection kan error uu ka jiro echo also waxa ii soo daawacdaa mysqli connect error waa function waxa ii soo daawacdaa error ka jiro okay error clear bracket for now safe hadda meesha imaado refresh dhaho you see now connected that's mean connection ku guuleysanay database kan wixii isku xirnay error abuureena hal mar meesha localhost oo kale xarf kale ku dardarno safe halka ima refresh for now error jiro soo isku wareejinaya ka dareemoya you see error lagu soo bandhigay waxa lagu leeyahay localhost failed waa yani localhost jjst dan wax la ka saay ma ahan waa is yani maxalli jiray host is noun okay yani hosting lama aqoonsano kulli waa failed hosting soo marka waxa leeyahay meeshan sidii soorada ku soo celiyo for now hadda halka imaado refresh dhaho you see connected marka waa inoo shaqeynaya connectionkeena hadeertaan connection ecogan hadda comment iska saarna marka ecogan comment iska comment gareeno fine maxalli jira filekan connectionkana iska xirno okay for now waxa sameeynayna marka page la dhahaayo register oo reach loo soo gaabiyay reach.php page kan waxa ku qor doonaa code-ka php-ga also waxa si diyaarsanayna page kale lagu magacaabo log.php waxa ka soo gaabiyay login.php ilaa login uu jira mogtahay log asiga dhahay marka login.php log ka soo gaabiyay so labadan page sameyn doona for now intaana ku joojin doona so waxa gudgalan doona marka video xiga waxa gudgaleena ina marka qorno code-ka php-ga for now assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaan asxaabta isku soo noqod wanaagsan sida wad ognahay marka jabtarkii saddexaad weli ku guda jirnaa soo waxa hore soo qaadanay dhamaan wixii design aha also fileshana soo ku toosinay example installation ku soo sameeyay so for now waxa diyaarinayna registration keena php-giisa so inta php-ga guda galeen koor waxa marka number 1 aadayna index.php ama page registration-ka so number 1 waxa diyaarinayna waxyaro meeshan ka badbadelayna html-keena number 1 waxa meeshan ka bedelaynaa action ina ku soo darno action ku soo dareena haday sax xasuustid waxa ku dhahay marka php qoreyna ku soo dari doona so action macnaheedu waxa formka markii action lagu sameeyo ama formka markii la buuxiyo oo la diro halkee la aadi doona formka waxa geen doonta register.php ig also waxa sameyn doona magacyo ina siiyo waxyaalahan cause of php magacyo aqoonsada classna ma ka saayo id-na ma ka saayo so waxa leeyahay marka username ka bilaabi doona name oo waxa ii siisaa la dhahayo asa username class also email ka waxa ii siisaa name oo la dhahayo email saas oo kale password kana waxa ii siisaa name oo la dhahayo password also waxa ii sameeysaa input kan lastiga oo marka ah isheeg balki confirm password ka asna waxa sameeysaa name oo la dhahayo c password sidaas waxa ka soo gaabiyay confirm okay so hadeertaan kaliya waxa inoo dhiman button kan
button kan submit typekiisa inuu ku ahaado waa qasab hadii hore kuugu sheegay. Also name waxa sii doonaa lagu magacaabo save oo kale ama reg btn aan doonaa registration btn. Okay, so intaan isu koobiyay. Okay, hadeertaan waxaa aadaynaa registration.php marka waxaa shuwa hadeertaan hal mar hadaa ku laabto halkan oo aado register.php ama index.php oo kiliga halkan siiyo saarkiisid waxaa aadaynaa pageka registration.php laakiin waa wax shaqo ma dhacayo waa empty. So waxaan rabnaa shaqo inaan sameyno marka number 1 waxaan leenahay marka pageka imaano php for her. number 1 waxaan leeyahay connection inaa wacdo ileen file connection soo sameeyay filekaas oo ku sheegay database inuu nagu xiriirinayo. So filekaas number 1 halkan ka wacayna. So halkan waxaa leeyahay including connection file. Okay, also halkan waxaa leeyahay marka include waxaa soo include kareysaa that's mean waxa la macno tahay marka joognay hadaa xasuusatid indexka marka rabna inaa wacano css waxaa sameey jirnay link style sheet. Also waxaa sheegi jirnay css ka meeshuu yaalo sidaas oo kale waa php laakiin wuxuu adeegsadaa function kan include lahay. So include aa leedahay gudaha waxaa ku qoray marka meesha loo socdo waxaa loo socdaa folder config la dhahayo gudihiisana waxaa ku jiro connection ama con.php. So data deertan waxaa haysanaa connectionki. Okay, waxaa kala sameeynaa marka condition abuurena condition kaas oo page kan hadii la imaado maxaa la sameeynaa. So in la qiimeeyaa la rabaa page kan marka la imaaday maxaa dhacay horta maxaa la waday yaa wax soo tuuray su'aalahaas inay isweydiino. So number 1 waxaa leenahay if marka hadii ay set associate gray ama daatada la soo tuuray ama la soo set gray uu yahay data uu hogaaminayo ama data marka postinga intuu imaana postinga wuxuu ka imaana methodka post waa haduu meeshan get ahala halkaas get aa dhiileen haduu meeshan marka methodka uu ahala methodkaas sheegayeen. So waxaa leenahay haduu post helno postigaas oo marka buttonka magaciisa buttonki registration btn ka control v dhehena. So registration btn magacaas button wato haduu meeshan imaado daatada uu wadana uu yahay post wax ii qabo marka maxaa la qabanaa. So number 1 waxaa leeyahay saa u hubiyo eco waxaa ii soo daawacdaa daatada inay shaqeynayso in kala hubina eco waxaa ii soo daawacdaa submitted ii soo daawac. Okay, for now halkan hadaa imaado oo control shift r refresh gareeyo then a button can tap to you see submitted that's mean wuu shaqeynayaa. Okay, marka waxaa meeshan submit ka tirtirno waxaa sameeynaa hadeertaan shaqadeena. shaqada koowaad qabanayna waxay tahay inaan sameysano variables kaas maxaa ku faleynaa variables kaas waxaa ku faleynaa datadan username la soo geliyo email la soo buuxiyo password iyo confirm password la soo buuxiyo. So waxaa rabaa form kan si ku meel gaar intii database kala geenin meel lagu sii keediyo. So variables ku keedsanina marka variable ka koowaad waxaa ku keediraynaa username ka oo meesha la soo geliyo inta marka username ka laga keenaa datadeeda waxaa laga keenaa post of wixii post ama postiga la soo tuuray postigaas oo loo yaqaano username. magaca username wuxuu ka imaanayaa nameki halkan soo siinay meesha hada oo hebel soo siinay meesha hebel ku qori leh marka magac walba halkan soo siisida sheegay. So marka waxaa leeyahay halkan username ka waxaa marka ku shubtaa post of username wixii laga soo helay username ka. Okay, also waxaa sameeynaa email kaasna waxaa ku shubtaa post of email sidaas la mid waxaa sameysaa password waxaa ku shubtaa post of password. Also variable la dhahayo c password sameeynaa c password kaasna waxaa ku shubtaa post of c password. For now waa dhameynay marka waxaa chicken gareynaa daatada in loo qabanayo in kale ilaan waxaa soo dhaanay data walba halkaas ku jirto variables kana lagu sii shubaa aproben inay runta arintaas in kale waxaa dhaha eco marka waxaa soo daawacdaa daatada variables kan ku jiro. Maybe number 1 waxaa leeyahay number 1 waxaa leeyahay username. Also number 2 waxaa waaye email. Number 3 waxaa waaye password. Number 4 na waxaa waaye c password. For now ajigan gareeya marka arinta inay dhacayso in kale username ka oo kale aan dhaho diftamir diftamir. Also halkan aan dhaho email ka 123@gmail.com halkan aan dhaho 123 also confirm password 123 send. You see now okay undefined array kc password tana noqlo haysta laakiin
waxaa la soo daabacay saarkiisa div timer 123 iyo password @gmail.com also 123 marka waxaan ugu haystaa confirm password waxaan leeyahay malakasaayo waxa la dhahayo confirm password oo qaabkan u qoran hal mar halkan ku laabano you see errorka jira waxay tahay meeshan c passwordka ka soo dhignay nameka yani khaldan marka underscore kaas ka bixinayna so for now hadda marka probeeno oo refresh halkan control shift r hadda refresh sameeno what the hell to know I don't know saasuu leeyahay okay marka isku dayayna halkan refresh gareynayna wax una iska gelgelino halkan wax geli soo kale intana wax iska gelgeli for now yes you see now error ma jira macna wixii dhan si automatically baa soo daawacay that's mean datadii waa noo hayno oo way noo shaqeeyaan variableska inay data noo hayaan hadeerta marka shaqada guud galeena waxa sameeynayna hadana condition kale condition kaas oo marka waxa sameeynayna in meeshaan tusaale qofku wuxuu sameyn karaa asagoo meeshaan wax data soo gelino soo diri karaa formka marka waxa rabnaa inaan dhahno qofka haduu data meeshaan uu soo gelinin haloo sheego inuu data meeshaan soo geliyo saas inaan sameeynaa rabnaa marka waxa dhaheena empty form not allowed okay so waxa sameeynayna marka if haddii empty function la dhahayo isticmaalina uu ever yahay maxaa ever username kan waxa lagu soo shubay formka username yani inputka username ka mas'uulka yahay marka waxa la dhahaa username kan haduu ever yahay okay user ama hal mar waxa sameyn karnaa anagoo isdhibin meeshaana waxa hal mar ku sameyn karnaa inaan sameeyno variable kale oo la dhahayo all data waxa ku shuweynaa marka fiiriya username ku shuweynaa iyo waxa ku shuweynaa space adho ama iyo adho waxa kale ku shuweynaa email also waxa kale ku shuweynaa komadan waa khalad maybe yes waa khalad so email also waxa kale ku shuwa password also waxa kale ku shuwa c password that's mean all data balkan variable ka ku shubta intaas saa mas'uuligaaga marka halkan ku xiro double squad for now shaqeeni comma maybe I don't know maybe okay waxa dhaha marka datadan halkan ku jirto haduu ever yahay waxa sameeysaa waxba yani waxa soo bandhigtaa waa ever form kaaga so waxa leeyahay marka all data haduu ever yahay all data haduu ever yahay you will make waxa soo daawacda waxa soo daawacda please submit a complete form fadlan soo gudbi form dhameystiran okay for now probay arintaas refresh boom okay error jiro so marka errorka jiro meeshaan waaye variable kan iska masaxno waxa sameeynaa mid walba sheegno gooni wacno waxa dhaana bawan username gadu ever yahay or ama haduu ever yahay calaamadan oo waxa waaye calaamadan waxay ku taalaa enterka korkiisa ku taalaa shift yaa la qabanay calaamadan daa baahanta sorry marka calaamadan waxay la macno tahay adoo dhahday or okay so calaamadan halkiis habo or marka la daadid or adoo dhahday waay so waxa leeyahay marka empty haduu ever yahay marka for now waxa dhaha email ka haduu ever yahay or empty hadana marka la soo celiyo sorry or email halkan or empty oo ever yahay password or empty sorry confirm password for now okay hadeertaan wuu shaqeynay boqolkiiba boqol hada ku laawan halkan oo for now refresh adahno oo gudbino you see please submit a complete form xitaa nolom ogolaana hal god oo ever inaga tagna hada godadkan dhan buuxino oo kan buuxino kan clears ka tagno dirno wili waxaanu leeyahay fadlan soo gudbi form dhameystiran hadii kuwan kale buuxino oo godka koowaad ka tagno oo marka register now dhaho wili waa liigu dhignaana soo marka ilaa data dhan ka helaa data dhan soo buuxiyo oo soo diro you see وانا قرينا مسجكي لكن wax kale oo shaqo ma noo qabanay marka shaqada noo qaban la hada sheegayna hadii data oo meeshan la soo geliyo maxaa inoo la qabanaa ina qeexnaa so for now waxa leenahay hadii marka data la soo gudbiyay aysan ever ahayn ina dhahnaa rabna
kaliya halkaana waxaa kusoo dareynaa else that's mean haddii oo iftaan aysan shaqeynin else marka haye elsegaa maxaa ku sameynaynaa for now waxaa rabna inaan jikin gareeno tusaale email markaa sameysanaysa haddaa email hore u jira aglis waxaa lagu leeyahay emailkan horaa loo qaatay also Facebook ada username hore loo qaatay aglis horaa loo qaatay lagu leeyahay TikTok like that all social media WhatsApp oo kale number oo qof u sameysan yahay aglis waa lagu qabanay numberkan uu sameysan yahay lagu leeyahay anigana saas amraan rabnaa qof akoonkiis in marka la sameyn karin in la qabto qofkii so waxaa leenahay marka arintaas jikin gareynaa so waxaa leenahay jikin what the hell chicken old account so waxaa dhahaa read waxaa soo akhrisataa old soo akhriso yani variablekas magaca doonta iskaga baxsan kartaa so waxaa siina halkan MySQL query function la dhaho oo iga caawina inaan query aqoro ama MySQL aqoro code ah ama SQL code ah so waxaa leeyahay marka select for now star from table keena magaciisa username useris goorme marka where username equal oo la mid yahay don't worry hal mar waa qoraadin waa ku sharxi doonaa username also under what the hell sorry waxaa ka rabaa inaad dhaho where marka username sida daaya inoo saxsanaa waxaa u maleynaa inaad joogo meel kale so where username equal uu la mid yahay username also under inaad dhaho meeshan under email or adhina meesha or sorry for that xoogaa maskaxda maqan or email equal uu la mid yahay asna email for now waa dhan marka waxaa leeyahay hal mar halkan hadaa kuu sharxo useriska aadi okay number 1 horta variable aa sameeyey variablekaas wuxuu qaban doonaa query waay querygaas muxuu sii qabanaa querygaas select micnaheedu waxaa waay wuxuu soo akhrisanaa start waxay u taagan tahay all calaamadna xidigta all yani ereyga all ee la macno tahay okay so start ku celiyo start all ee limit tahay marka from users waxaa laga soo akhrisanaa inta waa 1s only from users ka marka la soo akhrisanaa shimeel la soo akhrisanaa where marka username ka oo meeshaas ku jiro oo la mid noqdo username ka halkan la soo geliyay ama email ka oo meeshaas ku jiro oo la mid noqdo email ka halkan la soo geliyay that's mean hadii labadan la helna qofku waa la qabanaa hadii labadan la waayna qofku waa la qabanaa saas arabna okay waxaa leenahay marka for now hadii marka if adheena if hadii MySQL number of rows ka wixii la soo akhriyay oo variable kii read all day u dhiibana uu ka weyn yahay ever that's mean waxay la macno tahay hadalkan aakhore hadii wixii la soo akhriyay wax run ay yihiin tusaale waxaa soo dhaanay waxaa soo akhrisataa username oo magaca hadda meeshan la soo geliyay iyo password ka wato hadii username kaas meeshaas laga soo akhrisado uu jiro username kaas waana la qaban doonaa sorry meeshan waxaa ka hilmaamay inaa connection ka geliyo connection ka variable kaas inaa geliyo waxaad dhigi kartaa variable ka maxaa waay variable kan wuxuu ka imaanayaa file connection ka hore waxa u sameeyna da xasuustid variable inta connection ku sameeyna waxaad isdhigi kartaa file ka meel gooni u yaala soo halkan u imaana ilan meeshana file ki ku soo xirnay waa kan inta ka wacnay marka waxaa qasab ah in datadan in la sheego meesha laga soo akhrisanayo datadan waxaa laga soo akhrisanayaa localhost hebelo marka variable kan hooshaas sheegay okay maadaama variable kan hada fiirino wuxuu wadaa hostname user kel aadiro password lagu gari law iyo database ka loo socdo hooshaas marka asaa caawina ilaan meeshan table lagu sheegay table kaas inta lagu tiri doona ninkaana tooshkaas u haay marka okay marka ku sii wada sheekada marka username kaas la soo akhriyay username iyo ama email kan leh hadii username kan uu yeesho ama email kan uu yeesho ninkaas la soo akhriyaa dhahnay okay so ninkaas la soo akhriyay hadii uu jiro oo run ee tahay ninkaas uu jiro waxaa la sameyn doonaa in ninkaas la qabto waxaa la leeyahay ninkaas haduu jiro eco waxaa soo daawacdaa for now username ka magaciisa soo daawac marka username soo daawac then space leh waxaa dhahdaa you are already register
okay you are already registered. So for now waxaa dhahnay hal mar daa meeshaan dul marno or adeegsanay kaliya waxaa lasoo qabanaa haddii oo username la helo ama haddii email la helo haddii labadooda isla helo ma sheegin marka waxaa dhehnaa haddii labadooda isla helana in lasoo qabtaa la rabaa haddii username iyo password username iyo email oo hore u jiray hadduu adeegsadeen in lasoo qabtaa la rabaa marka waxaa dhehnaa meeshaan waxaa dhehnaa else haddii kale marka okay intaan inoo soo koobiyey sidiis inoogu soo koobiyey adoo wax aan ka bedelin sidiis inoo soo qaad inkaan markaa koobi soo dhaad halkaan keen hal shay bas isbedelaya meeshaan orta waxay noqonay under bas khalaas meeshaan orta waxay noqonay under meeshaan sidiis ahaanay you are already registered ala leeyahay mar hore is diiwaan gelisay for now arintaas way shaqeynay oo waa sax marka arintaas u jikin gareena waxa qasab ah database-keen in qof la geeyo ilaan database-ka qof ku jirin dasmin arintan ma shaqeynayso marka waa sii wadaneena meeshaana waxa sii leenahay else marka hadii la heli fiiri number 1 waxa dhaanay hadii qofka uu form ever soo gudbiyo hooshan saan yani waxaan u soo misidkan u soo bixi shaqaha u qabanin also waxa soo dhaana duu misid ever uu soo gudbinin laakiin daatada uu soo gudbi ee tahay daata hore u jirtay qabo meeshaan daata hore u jirtay leeyahay laakiin labada meel kala duwan meelna waa or meelna waa under so labadaas baaday ee saddexdan hadaysan dhicin maxaa dhacay marka ninkan formkiisna ever maahan waa soo jikin garay daatadiisna daata hore u jirtay maxaa lagu sameeynaa waxaa lagu sameeynaa in la xareeyo ilaan wax kale lagu qabsan karo male soo hadda daatada xareynayna marka waxaa sameynaynaa variable la dhahayo insert okay insert hala mid noqoto marka mysqli query hala mid noqoto mysqli querygaas maxay noqonay querygaas wuxuu noqoni number 1 connectionka u dhiibno then waxaa dhahaynaa querygaas waxaa waa select for now waxaa waa insert data la xareeraba insert meeshii from ayaa jirta waxay noqonay into intee marka users lagu xareeraba datadaas users maxaa lagu xareynaya yani userska marka aadno column badan uu leeyahay id jiro create data jiro waxyaalo badan jiro marka columnade wax lagu xareeraba waxaa dhahaynaa columnada wax lagu xareeraba waxay kala yihiin columnka username-ka iyo columnka for email-ka asna also password saddexdaas wax lagu xareeraba laakiin awadno saddexdaas wax lagu xareeraba meeshaan values adheena marka values kan waxa la macno tahay username-ka waxa soo sheegna fiiriya waxa dhaanay waxa xareysa daato waxa ku xareysa table-ka la dhahaa users okay daatada table-ka users marka aadid wili waxa si aada column-ka username la dhahaa iyo column-ka email la dhahaa iyo column-ka password la saddexdaas column daato ku xarey okay waxa la rabaa marka wuxuu isweydiinaa daatada la xareynayo maxaa waay daatada la xareynayo waxa waay for now username-kan ina isku aadino meeshan in la kala hormarsi saa intuu qortay inaa u qortay waa daatadana soo waxa dhaha marka daatada koowaad ee la xareero waxa waaye ama waxay ku jirtaa variable dha username wixii la soo geliyo waxa lagu shubi doonaa username also daatada labaad waxa waaye email okay daatada saddexaadna waxay noqoni password saddexdaas data la xareena okay so saddexdaas data la xareena saas u shaqeyn doontaa marka hadeertaan وحريسما داتدان waa hubnaa laakiin wili waxa jira qofka jikin kale in la mari ama in la sii hubiyo jikinka on for now ninkaas u dhiman waxa waaye waxa soo sameeyna da xasuus confirm password user password marka waxa la rabaa password inta uu soo geliyo password inta soo geliyo in isku mid noqdaan soo waxa la leeyahay arintaas see loo sameeyo else if marka else gaana waxa la raacsiinaa if macnaha insertiga wili ha sameenin wili waxa kala sii hubisa waa laga sii taxadira ma fahamtay waxa la leeyahay marka password variable-ka password waxa ku jiro haduu la mid noqdo si password waxa ku jiro daatada xareey marka inta waxa dhaheena for now else marka hadane hadii marka data isku mid ah meeshaas aysan ku jirin tusaale password 1 2 3 la soo geliye si password-kana waxa la soo geliye 1 2 3 4 so maxaa la sameeyna waxa sameeyay ninkan waxa soo daawacdaa eco waxa soo daawacdaa ninkan password not much password كان سيم not much خلاص ما جت ولي for now intas marka insert kan hadeertan waa la sameeyna for sure hal mar abrobeen ma la sameyn doona insert kan yes waa la sameeyna refresh daa dhahno oo meeshan aan dhahno div tamir meeshan aan dhahno 123@gmail.com
sorry .com what the hell .com passwordka aan ka dhigna 123 also intana 123 aan dhahno register. For now wax data ma nala soo bandhigin cause of datadan waa la xareeya hadaa aaminaysa tii kale. haddaa imaan userska oo click aan siino you see diftamir waa lasoo xareeyay emailkiisa passwordkiisa iyo waqtiga la sameeyay anaga ma sameynin ID-gan anaga ma sameynin cause of waa automatically hadaya automatic soo dhiganay laakiin saddexdan data waa kuwa soo xareynay diftamir waa lasoo xareeyay also 123@gmail waa lasoo xareeyay arintan database-kan si toos ah loogu soo xareeyay. So laakiin message nalama siinin sababta message nala siinna waxay tahay anaga ma sheegin kaliya waxa dhahanay noo xareey marka haddii passwordkii waxa isku mid noqdaan datada noo xareey haddii la xareeyay madin hadda marka conditionkaas awoorina waxa dhaheynaa marka if haddii variable-kan insertiga hoosh uu soo qabtay lagu guuleystay that's mean haddii insert bis qoro macnaheedu waxa true ay macna tahay haddii true ay tahay oo datada lagu soo guuleystay waxaa noo soo daawacdaa waxaa soo daawacdaa successfully registered so that login your account marka account sida caadada noo ahayd waxaa ka dhigeena tag meeshan caadi ugu dhex qor kartaa html-kaaga tag ka dhigeena inta dhaho href meesha la aadi doono ha noqoto isheeg login.php hala aado soo waxaa dhaha login your account then meeshan waxaa raacsiinaa now okay ama now inta baa ku daran login your account now for now marka waxaa rabnaa qofka hadduu isdiiwaangeliyo oo si sax u isku diiwaangeliyo in loo soo bandhigo waa ku guuleystay isdiiwaangelintaada akoonkaaga hadda raadi oo linka la siiyo. Okay so else marka haddii qofka uu isdiiwaangelin maxaa waayo errorka jiri kara isweydiino errorka jiri kara wuxuu noqon karaa kaliya in error uu database-ka ama wax ka jiro ilan erroryaasha kale anagaa soo sheegnay form ibirna waa soo sheegnay qofkan duhor waxaasna waa soo anagaa soo sheegnay wixii lagu soo daabici lahaa laakiin errorkan waxaa iskale database-ka asaa laga rabaa inuu sheego marka waxaa lahaa iko waxaa soo daawacdaa for now my SQLi connect error soo daawac for now meeshan bracket calaamadan meesha ka bixi also dual squad-ka meesha ka bixi haddii waxaan dhan aysan dhicin oo ninkan uu ku guuleysanin errorka jira noo soo daabac ilan error la jiri karo. Okay for now halkan dar fresh dhaho maxaa dhacaya hal mar you see waxaa leeyahay diftamir you are already registered cause of sababta saas leeyahay waxay tahay hal mar da formka ku laabto formka waxaa ku jira datadii hore anagoo mar kale oo buttonka register taawanay la mid tahay saas darteeda waxaa noo leeyahay hore isku soo diiwaan gelisay marka hal mar meeshan 1 raacsiyo kadib register dhaho hadda hel emailka wili noogu haystaa. Okay emailkana meeshan 1234 ka dhignaasna you see now yes waxaan leeyahay successful registered so that login your account hadda click ku siiyo login page-ka li geen doona hadeertaan waa ku guuleysan inaad sameeyno registration form-keena for sure like waxaa boroweynayna hal mar password-ka hadda cagsi ka dhigna ka waran hal mar password-ka hadda cagsi ka dhigna maxaa dhacay meeshan 12 ka dhig waan la qabsan doona ileen datadan waa xareene hal mar you see password not magic password isku mid maahan datadii hadda ma la soo xareeyay oo hore datadii hadda successful noo soo qor yes waa arkusa sax waa kana datadii hore noo la soo xareeyay laakiin kan hadda noo ma soo xareynin cause of meeshan lagu haystaa oo password-ka same ma like password-ka da same ka dhigna hal mar afiirino 1 2 3 yes register you see now successfully registered so that login your account hal mar database-ka imaan oo refresh dhahno you see datadii si toos waa noo soo xareeyay so hadeertaan waxaan sameynay registration form oo full ah oo shaqeynayo oo back endigiisa iyo front endigiisa uu shaqeynayo so intaana ku keenayna waxa gudagaleena inaan sameeyno login form-keena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh isku soo noqod wanaagsan sida wad ognahay waxaan ku dhex jirnay chapter-keeni saddexaad waxaa hore soo sameynay registration form oo full ah oo inoo shaqeynayo so waxaan mareynaa gabagabadii muuqaalka kaliya waxaan oo dhimaynaa sameeyno login form oo shaqeynayo so login form-keena gudagaleena registration form-ka waa ka dhamaanay iska xirno so login form-ka intaan sameynin ka hor number 1 waxaa waa inaad diyaariyo
إلى نكان registration وسو سمي also login وسو سمي مركو login سو سمي انت لكاني دونا إلى هذا واركتي فيسبوك أو كله مركا register لوجو ديوان جليو registration أسميست أو كدي login أسميست ستوس بروفيل كلوجين دونا وحرتك راح سمي كرتا سو قفك بروفيل ير إنه سمينا مركو حده هنا create new file سو حق ديجينا فايل كان dash أوكي بروفايل أو كله profile.php أكدي دونا profile.php for now for now wax badan lagu qori doono php afur aaxiro kaliya waxa dhihi doona eco waxa soo daawacda hello Mohammed okay hello Mohammed okay for now hada meeshan aan ku qoro ishak profile.php you see hello Mohammed marka dhow xarabna Mohammed kan in automatic loo bedelo qofka magaciisa meeshan loo qoro hadii Cabdi uu soo raadi hello Cabdi hadii Faarax uu soo raadi hello Faarax marka waa gaari doona dynamics for now waxa sameeynayna waxa la dhahay session maanta baranayna session da hore u taqaan waa taqaani hadaan aqaanin maadan aqoonin oo hadda baro session ka waxa waaye like edikar oo kala dhigi karna marka adduunka caadi ku qiimeeynan tusaale nina login soo sameeyay nina login ma sameeyay labadaas nin la kala bixiyaa la rabaa maxaa lagu kala bixinaa ninka login soo sameeyay see la aqoonsanaa ninka akoonkiisa uu saxan yahay oo login soo sameeyay oo database inoogu jiro see ku fahmeena also ninka database ay inoogu jirin see ku fahmeena so saas wax xalino page kana waxa ku abuureena wax session la dhahaa number 1 session marka sameeynis waxa qasab ay halaha inaa qortid session start function ka inaa qortid inta inaa qortid dasmin waxa la macno tahay session horta waxa waa ereyga session global variable waa oo jiro hal marda ku laabano register.php haday marka rabnay ina adeegsano connection kan waxa qasab ah ina include soo sameeyno oo awacno file-ka connection ka meesho inuu yaalo also session ka marka start garay waxa awood u leeyahay ina adeegsado global variable oo session la dhahay okay so hada session ka marka sameeyay kadib halkan waxa dhihi doona marka if hadii I set associate gray maxaa soo set grayna variable oo global ah jiro marka oo yani able post oo arki jirta sax variable ka soo underscore ka bilaawdo dasmin waa global variable so post marka qor jirnay global variable oo jira for now waxa qorina session qorina then session kaas magaciisa sheegayna waa sidii post qor jirnay then sheegay soo post kariya magaciisa oo sheeg jirnay marka session kale soo tuura duu yahay session lagu magacaabo true kan waa area iska isticmaala adi waxa doonto meeshaas ku buuxso so session magaciisa duu true yahay waxa sameeyay yani session true la dhahay hadii jiro oo la soo tuuro qofka page ka imaaday haduu wato session kan true la dhahay qofkaas waxa sameeyay faraha ka qaad dasmin meesha wax ku qoray wax amar lama siinayo bana else laakiin hadii qofka uusan wadanin session kaas true la dhahay maxaa lagu sameeynaa qofkaas waxa sameeyay function oo header la dhahay jiro oo locationada lagu bedelo tusaale marka taawano tag waxa dhici jiray in URL ku isbedelo URL kale noo la geeyo saas amal function automatically URL ku bedelaya jiro qofka URL kale geenay URL kaas dhan ka mamnuuca marka function kaas header la dhahaa then header ka waxa ku dhex qorey location array la dhahayo macnaha location qofka loo diray hadii qofka uu edikaarkaas wadanin hala buriyo macna location kan loo diro location loo diray sheegayna soo waxa leenahay location loo diray ha noqoto in qofkaas login uu soo sameeyo login.php page kaas loo diro macnaheedu waxa waa arintan qofka duu edikaar uusan wadin page kaas loo diro haday marka sida ogeed page kan caadi ah soo booqan karnay oo waa kana waa dhex joognaa for now like ada refresh kareyno خلاص page kan waa naga mamnuuca meesha noo geena fiir so automatically URL muxuu isku bedelay login.php anaga ma bedelin asaas bedelay so arintaas waxa naga caawinaya waxay tahay session kan hadda adeegsanay hal mar hada meesha aan dhahno mar kale fiir profile.php ina booqan inta isku dayno ma booqan karno forever يعني page aan jirin hadan oo kale noo dhaqma fiiriya profile.php mar kale enter you see meeshaan aan lagu soo celinaa meeshaan ma laga wadaay marka arintaas waxa naga caawinaya code kan yar oo 3 sadar ah number 1 waxa sameeyay session ka start gareeyay number 2 waxa dhahanay hadii la soo tuuro session true la dhahayo qofka farax ka qaad hadii session kaas la soo tuurin qofka location kiisa waxa ka dhigtaa login.php marka su'aashaas weydiinta mudana waxay tahay session ka inta laga soo tuuri rabaa ilaan qof aan session kan wadin page ka ma balkeeni karo sax okay meesha laga soo tuurayo arkeena so for now login.php imaanayna sa code u diyaarsano
laakiin waxaa ka horeeya haddaa xasuusatay in login.php oo aan aadno then magacayaasha aan soo saxno inaan actionkii aan sheegno oo filekan markii soo yani buttonkan submit kala taabto meeshii loo diri lahaa inaan sheegno also kuwa inaan magacyo aan siino saas aan nagala rabaa so waxaa dhehaynaa for now action attribute-kan action la dhahay adeegsanaynaa action maybe action yeah so waxaa dhahaa marka actionkiisa ha noqdo pagekan la dhahayo log.php pagekan log.php la dhahayo qofkan ha aado okay also qofkan name hala siiyo magacaas sorry qofkan hala siiyo name hala siiyo namekaas oo lagu magacaabo meeshaan waxaa ka rabaa username or email ka rabaa sorry meeshaan or email waaye I don't know waxa password ugu dhigay marka meeshaan waxaa la rabaa qofka inuu usernamekiisa duu kliyo oo markaa la gudbiyo hadduu usernameka uu hilmaamsan yahay uu email u geliyo in la gudbiyo email username inuu qofka kusoo gali karo sida Facebook oo kale wuxuu ku leeyahay hadda markaa geshid usernamekaaga kusoo gal ama waxaa kusoo gashaa numberkaaga telefonka marka saas camal anagana waxaa rabnaa qofka inuu kusoo galo usernamekiisa ama inuu kusoo galo emailkiisa okay so waxaa leeyahay marka inputska oo nameka waxay noogu shubtaa meeshaan emailka waxaa laga soo gaabiyay username iyo email meeshaan noogu shub okay also password waa hal password asna waxaa noogu shubtaa name oo password la ah خلاص also submit-ka meeshii hore oo log btn reach btn sines for now waxaa waaye log btn خلاص oo dhan yahay intaan hal mar da pagekan for now control shift r ado or fresh gray then ado login you see waxaa li geena log.php laakiin shaqali ma qabana so shaqadaas inaa qabno waay ku soo laabana marka hadeertaan log.php aadina so waxaa sameeynaa for now php furena php xirena okay php marka furno php xirno waxaa qasaba shaqada la qabalaha inaan sheegno number 1 shaqada inta la qabani waxaa qasaba connection inaa soo include kareyna so waxaa leeyahay including connection file okay so waxaa dhahaa marka include waxaa soo include kareysaa folderka config add kadib waxaa inoo soo include kareysaa fileka la dhahayo connection.php okay so for now waxaa dhahaa marka if haddii I set as soo gareeyo maxaa soo gareynaa post of maxaa soo bixinay buttonka magaciisa daa xasuustid log btn hadda postigaas soo tuurno ama uu jiro postigaas you will make variableski abuurayna marka variableski hore variable badan ay ahaayeen like for now waxaa dheena variables store the data okay store what the hell ama variables bes aan dhahno okay so variable koowaad aan sameynayno waxaa waaye haddaa xasuusatid email wuxuu ahaa meeshaan qasab maayaa variable iyo meeshaan magaca soo bixis inaad isku mid ah ka dhigto okay magacan what the hell emailkan iyo meeshaan oo emailka inaad isku mid ka dhigto qasab ma laakiin ani hadda ahaan howl fudays ahaana isku mid ugu dhigoya okay so waxaa dhahaa marka meeshaan waxaa ku shubtaa post of wixii laga soo post garay ama wixii marka la soo geliyo emailkaas okay also waxaa sameysaa variable-ka la dhahayo password asna waxaa ku shubtaa post of wixii laga soo post gareeyay password for now datadaas waa okay meeshaan equal ka maqan equal dhaho خلاص datadaas waa okay marka waxaa qabanaa sidee daay oo kale in file empty meeshaan la soo gelin waxaa leeyahay hadii empty uu yahay meeshaan hadeertan dulmar waa ileen hore soo sharx sax so waxaa leeyahay marka emailka du empty yahay or uu empty yahay passwordka du empty yahay waxaa sameysaa sida caadada ahaa echo waxaa soo daawacdaa meeshaan waa dulmara kaliya meesha loginka ah sharxi doona echo waxaa soo markaa soo dhahdaa please sorry what the hell please submit a complete form خلاص oo dhan yahay datadan meeshaan exclamation mark else mark haddii kale for now خلاص empty bes la diidaa wax kale la diidaa malahan haddii qofka form empty uu soo gelinin loginka loo sameeyo wax kale ma jiro meeshaan okay marka loginka sameeynayna loginka waxaa waa in userkii la soo akhriyo la jig karay intaas waa kaliya read as sameeynayna marka read all the iskaaga bixi asaga xitaa so waxaa dhahaa mysqli query so waxaa leeyahay kadib connection u dhiib
connection كان نقضه select star from users goormee marka where soo hadda isticmaalina method keeda adeegsanibni oo qalad waa inii dhahay meeshan bracket afura waxa dhaha marka user username where marka username equal uu la mid noqdo muxuu la mid noqonaa username ka haduu la mid noqdo email ka ahaysano email ka haduu la mid noqdo username qofka waa sax qofkaas soo akhri haduu la mid ahayn qofkaas uu qaldan yahay macnaheed okay email okay or marka ama ilaan waxa hore soo dhaanay qofku waxa rabnaa inuu soo galo password inuu soo galo sorry waxa rabnaa qofku inuu soo galo email ama inuu soo gali karo username labadooda mid ku doon inuu soo galo marka waxa dhaha or ama hadii emailkiisa uu la mid yahay wuxuu soo geliyay uname-ka ilaan uname-ka wuxuu soo geliyay anaga ma aqaan haduu rabana wuxuu soo geli karaa email haduu rabana wuxuu soo geli karaa password marka waxa dheena email-kan wuxuu soo geliyay markaas waxaas ka qaado okay meesha hal mar waxa rabaa inaan dhaho single quad خلاص marka labadan hadii mid uu soo geliyo waxa qasab ah marka password inuu raacsanaado hadii password la helin marka wax shaqeynaya marka anda dhaha meeshan anda password database ugu jiran haduu la mid noqdo password uu qofka soo geliyay خلاص haduu la mid noqdo hadeertana shaqada fulinayna marka shaqada fulinayna for now waxa waaye ina dhahno if hadii MySQL sida daya sameeyeen oo kale number of rows ka macna daatada hadii oo la soo akhriyo oo qof jiro uu yahay qofkaas yani qofkan haduu uu marka username kiisa uu saxan yahay password kiisa uu saxan yahay maxaa lagu sameeynaa meesha waxa gelinaa variable kan read all la dhahayo haduu ka weyn yahay ever dasmin haduu yani oo true yahay okay haduu true yahay waxa sameeysaa qofkaas session oo abuur horta id card oo abuurina okay session waxa abuurtaa la dhahayo true session kiis true gana hala mid noqdo true session kan true asameyno waxa waay session ki meesh uu ku gali lahaa ilaan hadaaye log hada aadno hal mar profile-ka ilaan qofka profile-kiisa inuu aad la rabo mogta profile-ka maxaa soo dhaana haduu qofka session true wato session true marka inta ku siina waa kana hadii session true asiina saan macna dasmin qofkan uu gala haduu wax saxan uu soo geliyo session kan true gacanta laga saara markuu profile-ka aado inuu gala loo ogolaana hadii wax khaldan uu kaliyo session true ma la siina haduu profile-ka aado waa la qabsana saas waa okay waxa dhaha marka session kan true qofkan hala siiyo okay session true marka la siiyo also waxa rabnaa username kiisa inaa helno marka waxa dhaheena easy say noogu noqoto waxa dhaheena username waxa sameeynaa session sameeynaa horta underscore session kan waxa uu bixinayna username ka hala mid noqda dhaheena muxuu la mid noqona wixii qofka uu soo geliyay username hala mid noqdo username kiisa soo akhrisanayna hal mar waxa dhaheena meeshan variable oo row la dhahay sameeynayna waxa ku shuweynaa MySQL fetch asog wax la dhaho ama function la dhaho so function kan MySQL fetch asog wuxuu ka caawin doonaa in daatada lagu kala jijibiyo ilaan daatada la soo akhristay star waa mogta all data la soo akhristay oo users ku jiro then user kan daatadiis dhan la soo akhriyay anagana waxa rabnaa username ka magaciisa bes inaa helna magacaas waxa ugu faa'iideysan rabnaa meesha maxamed ku qoran qofka magaciisa inaa gelinaa rabnaa magac ka soo la soo geliyo meesha uu galo arintaas ugu helna marka meeshana waxa dhaheena MySQL fetch asog function kaas wuxuu naga caawinaa in la kala jijibiyo maxaa la kala jijibinaa marka variable kan wuxuu wada hal kala jijibiyaa dhaheena variable kan soo koobiyay variable kan daatadu wado hal kala jijibiyo dhahane okay so waxa dhaheena marka username ka hala mid noqdo muxuu la mid noqonaa rogan daatada uu wado ha lagu show username kaas haye data badan oo rogan wada marka wuxuu wada data la soo kala jibiyo wuxuu wada data oo marka email data password data waxyaalo badan wada marka waxa dhaheena datada ninkan uu wado oo username kaliya username ka ninkan uu wado meesha ha lagu show خلاص dasmin session kan woona dhameystiran yahay marka arinta aan sameeyna hadana wali waxa si dhaheena header-ka bedelina marka ilaan qofkan profile-kiisa in loo ogolaado la rabo mogta header-kiisa ama meesha la geen doono haduu guuleysto ha noqoto profile-kiisa profile.php yani file-ka magaciisa sheegayna ilaan waxa rabnaa qofkan haduu guuleysto in profile-kiisa la geeyo خلاص arinta way shaqeynay kaliya page-kan hal waxa ka dhiman oo ah session in la start gareeyo session start خلاص arintan waa dhameeyay for now so for now wax inoo dhiman ma lahan marka waxa dheena else marka hadii qofkan daatada uu soo geliyay qalad ay tahay maxaa la sameeynaa qofkan daatadiis de qalad ay tahay eco waxa soo daawacdaa you inserted
incorrect data. You inserted incorrect data. Please check. فضلا iska hubi. Okay خلاص intaan way noogu filan tahay qofka hadii data u qaldan oo soo geliyo intaan ha loo sameeyo profile-ka ku soo noqoneena meeshaan waxa ku soo daawaceena marka mis dhibeyno session oo username la dhahay ma la soo tuurino hadaa xasuusitid meeshaan username qofka lagu soo shubo mogta session kan variable kan sidiis noogu soo daawac marka wixii variable kan uu ku jiro meeshaan lagu soo daawaca hadii meesha Ahmed uu ku jiro Ahmed lagu soo daawaca ileen meeshaan waxa lagu shubi doonaa markaas username-ka qofka uu soo geliyo sax marka username-kiisa markaas anagana waxa session ahaan u tuureena inta loogu soo daawaca hadeertan waa dhameeyay login-keena waxa kaliya noo dhima inaa browen inuu noo shaqeynaa in kale for now our fresh grain halkan then hal mar data khaldana gelinina horta first one data iska bembena gelinina login you see you inserted incorrect data please check okay so ever so ahead direna hadana waa browenina you see please submit a complete form the last one anoo dhiman hadduu noo shaqeeyo micnaheedu waxa waa guuleysanay chapterkeena meeshaan uga kaana maxaa waa taas kaliya in user saxan ay gelino user kana soo koobiyeenena for now meeshaan ku bastigray passwordkiisa waa 1 2 3 for now login you see hello diftamir waa username ka saxan okay kana ku soo shubna hadane hal mar meeshaan kana ku bedelina username kan kale login you see hello diftamir 1 oo shaqeynaya macnaha kaliya hadeertan hal waxa noo dhiman halkaas waxa uu ah inaa sameeyno log out ilaan qofkan login oo soo sameeyay page-kiisa inuu log out gareeyo store oo ka baxo soo log out sameysana easy wax yar code yar qoreyna bis so for now waxa sameeynaa page oo la dhahayo logout.php waxa isweydiinayna qofka inuu profile-kiisa aadiya ka dambeeyo waxa ka dambeeyo session kan oo true la dhahay sax logout oo idil waxa ka dhigaynaa session kan true la dhahay in qofka laga qaato hadduu logout oo qofka imaado waa laga ceshanaa macna waxa laga ceshanaa ID card la soo siiyay ilaan qofkan page-kiisa soo imaado waxa qasab ah inuu ID card kan qaato ID card kana laga ceshanaa macna waxa leeyahay ID card kan iska keen hadaa logout asmeynaysid ID card kan keen خلاص ID card markii laga qaado saas darteeda banaanka loo tuura oo diko inuu login soo sameeyo noqonay soo marka logout ka imaanayna kadib waxa dhaheena hadii marka if hadii ay set soo sad gareeyo qofka meesha imaanaya haduu soo sad gareeyo macna qofka meesha imaanaya duubato ay la macna tahay muxuu wataa qofkaas haduu qofkaas uu wato qofkaas duubato session oo la dhahayo true duubato qofkaas laga qaada la dhihi rabaa session kaas duubato you will make and set macna waxa ka qaadi session ka true la dhahayo qofkaas ka qaad hadduu session kaas uu wato ilaa ninka logout inuu sameeyo maadaama row ID card ka laga ceshto kadib marka ID card ka ceshitid ninka header-kiis inta ka dhigay marka ID card ka laga ceshti inta loo dira ha loo diro location kiis ha noqdo login.php خلاص page kaas ha loo diro haddii ID card ka laga ceshto sidoo kale marka else haddii kale uu meeshaan soo imaaday oona ID card wadanin maxaa lagu sameeynaa isla page kan ha loo diro hadduu ID card wato iduu wadan ilaa waxa laga rabaa hadii laga qaadin in login la soo sameeyo hadii oo ID card uu wadanin inuu ID card u doonto labada marba page kan loo diri doonaa okay for now waa dhameynay logout ka kaliya waxaan oo dhiman page kan profile ka inaan ku soo darno meeshana waxa dhaheena marka inta waxa dhaheena h1 oo kala dhaheena ama oo kale paragraph so waxa dhaheena if you hadii I repeat if you want to if you want to making log out click here marka click here link ya ka dhigayna okay click here linkigaas waxa link ya ka dhigayna click here linkiga inta la geeyna marka linkiga la geeyo logout.php خلاص for now chapter 4 uu dhamaadaas dhig kara hadaa refresh gareeyo oo halkan aad taabto you see qofka meeshaan halkeen doona hadduu isku day inuu akoonkiis uu ku noqdo profile.php what the hell wuu shaqeynaya bil I don't know hal mar logout ka ku laabto sorry meesha error ka jira waxay tahay waxa la rabaa in la sameeyo session in la start gareeyo okay session start ma macna error kaas ana istakliya session in la start gareeyo ilaa session soo la start gareen ma shaqeynayo variables kan oo session ka so waxa dhaha session start ku sameey خلاص hadeertaan abrowena marka for now halkan refresh gareeno click here for now da ku laawno page keena oo profile.php
sorry profile.php you see ma shaqeynayo macnaheedu waxaa waaye log out aan lagu sameeyey so for now wax inoo dhiman ma lahan saasaan rajeynaa oo all waa fulinay dhammaan waa sameynay registrationna waa sameynay also login waa sameynay waxaa kusoo darsan xitaa log out so waxaan rajeynaa muuqaalka in wax una ka faa'iiday so haddiidan fahmina mar kale ku cesho oo dib u daawo wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته وحين وبلنا أنت كل مدونة بروجكت limit